السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشي يدا أنو جعلنا هيو وبرنامج كيني لايف كها سومالي ميديا جمعها أو أنو أبدن لي إن أنو كتاغيرنو مشرح يغا قيمها بدن أو أنو أرجين إنو قوليستو دبدن أبدباديو الشعب كالصوماليات إيدالك الصوماليا أن برنامج كان لايف كها وحا أدبرت إنترنت كداون كرتان livestream.com/debate-ka Soomaalida waxaana caalamka oo dhan laga daawan karaa Universal TV iyo Royal TV. barnaamijkan maanta waxaanu ugu talagalnay in aanu ku taageerno saaxiibkayaga suxufiga qaaliga ah aqoon-yahanka Cabdi Malik Maxamed Askar. barnaamijkii ayaanu furan doonaa haddii Allah awoodi lahi uu ogolaado. barnaamijkana waxaa inoo furi doonaa waxaanu ku furan doonaa ayado quraanka kariimka ah haddii Allah awoodi lahi uu ogolaado. laakiin barnaamijka waa 2 saacadood oo live ah. waxaan codsanayaa marti sharafta lagu casuumay in ay madashan ka hadlaan in ay waqtiga ilaaliyaan si markaasi barnaamijka 2 saac aanu uga bogono. marka ugu horeysa aan ku soo dhaweeyo azaciim imaam Soomaal Sheikh Saad oo inoogu furaa آياته القرآن الكريم كها إمام شيخ سعد كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق القائلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ليال خيارتنا الشرف تاله عزيزية كرامة له هي وجود قالجين كل جد كرانية صاحبة الله هي الصوماليات حفلة قالجة ودلكي صومالية dib loogu dhisayo insha Allah ta'ala siyaasadiisa, dhaqaalihiisa, caafimaadkiisa, waxbarashadiisa, amnigiisa, nabadgelyadiisa, biiskiisa loogu dhisayo insha Allah ta'ala aasaas u ah oo uu u tafaxaytay ama uu isku taagay suxufigeena weyn ee qaaliga ah Cabdi Malik Maxamed Askar. marka ugu horeysa walaalayaal xafladaas aad uga soo qaybin ku mahadsan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaa ka bacdi, Soomaalidu waxay tiraahdaa nin la sugayo iyaad sugaysaa. waa mahmaa Soomaaliyeed wey. Cabdi Malik oo walaalkay ah saaxiibkay ah oo yiri waxaan isku taagayaa
inaan miftaaxul khayr u noqdo arrimaha Soomaaliyeed ee murgay maaragtay siday u murgeen si kastaba noqday oo aan raali laga ahayn ama si kasta oo la yaabo oo aan la filaynin oo dalkeenni iyo dadkeenni burburka iyo baabaa iyo dhibaatada ku dhacday aynu arkayno hadduu Cabdimaalig yiri maanta miftaaxul khayr baan noqonaya rasuulkeennu wuxuu yiri المؤمن مفتاح للخير ومغلاق الشر ده وانو كهامبلينا وانا جيسينيمو oo waxay geesinimo ku tahay waqtiga adag qofka istaagay yiraahda anigu waxaan u kacay inaan waxa wanaagsan horseed u noqdo marka Cabdimaalig horta waanu kugu hambalyeynaa geesinimadaasi waanu kugu garab taaganaa ilaahi insha Allah taala ninka wax dhisuun baana wax noqda ninka wax qabtoon baana wax noqda ninka ihsaanka sameeyuun baana wuxuu doonaya hela waana run inta ka bacdi walaalayaal haddii aan dib ugu noqdo bini aadanka ilaahay abuuray ee aan ka mid nahay ee ilaahay wuxuu noo soo dejiyay diinteenna ama diin kasta waxa loo soo dejiyay inay waxyaalahan soo socda ilaaliso inkastoo oo waqtigu yar yahay oo ka gaari karin laakiin diimaha waxa loo soo dejiyaa oo dadka in lagu haga loogu soo dejiyay fi dunya wal aakhirah waxa weeyaan inay waxyaalahan ilaaliso waa maxay nafta inay ilaaliso nafta bil aadanka ilaahay karaameeyay walaqad karamna bani aadam leeyri meel kasta ay joogtaba in la ilaaliyo weey qof kastana waa ka mas'uul weey naf kasta in la ilaaliyo weey wanaageeda sharafteeda isigeeda karaamadeeda nabadgelyadeeda xasiloonideeda arsaaqadeeda tacliinteeda يعني قف وحو باهن yahay oo dhan waa in la ilaaliyo ee ilaalinaya isagu ilaaliyo markuu isagu ilaaliyo inta kalena way ilaalinaysa way qof ku dayanaya nafta in la ilaaliyo waxa diinta islaamka ama diimaha loo soo dejiyay kulligoodba in ay ilaaliyaan maalkana in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo maxaa ilaalinaya nafta hadii la ilaaliyo maalkuna wuu ilaashamaya marka nafta la ilaaliyo maxaa ilaalinaya aqligana in la ilaaliyo way waxyaalaha ilaahay uu dadka uga maarmi waayay marka walaalayaal hadii Cabdimaalig yiri warbal waan burburnay oo waan baaba'anay oo waliba waan soo fogaanay oo Minnesota joognaa ama Mareykan haddaan dalkeenii dib u eegnad waxa la yiri dib u eegista lafteedu diinku baa Soomaaliku mahmahada diinku baa la yiri taymadu dhashiisa ku koriya sidaa uu buutaya waa mahmah cajiib oo xikmada weey waxay waxa kaliya xawayaanka markuu oo dhalaya ugaxaantiisa aasa muxuu aasay inuu nabad galiyo deetana markay waqtigeedii gaadho ayuu intaanay waqtigeedii gaadhin markasta intuu soo maro ayuu sidaa u eegaa markaasuu ila way kuugu jirtaa maalinta ugaxaanta waqtigeedii gaadho ka qodaa deetana uu ka dilaaciyaa markaas ay diima ku raacaan marka hadduu Cabdimaalig dadkeena Soomaaliyeed jooga Minnesota ama Mareykanku aynu dalkeenii dib u eego ana horseedidina soo diyaar uma nihin diyaar baan ku nahay Cabdimaalig adiga iyo inta ku taageeraysa iyo inta wanaaga jecel iyo inta sharafta jecel ba maxaan ku yiraahdaa kugu garab taagan anigu si gaaran u qiimeynaya Cabdimaalig waxaan ku qiimeynayaa waa tii aan biiska iyo arrimahaas risaalada calanka u qaaday yaan sameynay World Peace Organization peace salaam baan sameynay ragii markaa tiirarka u ahaayay dhidibada u taagay inuu magacan bal salaamkii dadka maskaxdooda iyo aqligooda ku soo noqdo ka qayb qaatay ka shaqeeyay ee u seexday u soo toosay ee magaca meel mariya magaca Ilaahay salaamka cirka u qaaday ee yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskii ifsu salaama baynakumna ku dhaqaaqay ee ka shaqeeyay ee aan ku dhignay target centerka Somali World Peace Day takbir Allahu akbar arrin culus bahayd arrintaas arrin culus bahayd ragii markaa runku ka wahaabo gabdhahana ka mid ahaa maalintii calanka lulayay markaa walaalayaal haddii aynu Soomaali nahay oo aynu joogno qof walba waxa looga baahay inta isaga uu xil saaran yahay inuu qabto wallahi oo thumma wallahi nin waliba cisbu doonaya oo karaamu raba oo sharaf buu raba
oo madaxtinimo rabaa laakiin nin waliba hadduu qabto inta isaga uu u xil saaran yahay ee markaasi uu mas'uulka ka yahay waxa waliba way hagaagayaan aniga hadda Minnesota aan joogaa Soomaaliya oo digada iska dhigtay baan maalin walba u imaadaa kanaan u tagaa maxaan ugu tagayaa mas'uuliyadda i saaran ee bini'aadanka iga saaran ee muslimka iga saaran ee Soomaalida iga saaran baan isku taagaya ee diinta iga saaran iduna saas oo kale u baatiin qaar bay yiraahdaan war wadaadkii halkan muxuu ka soo doonay Soomaa waxaan ka soo doonay waxa weeyaan waxaan ahay run weey waxayna qoloyinka qaarkood wadaadkii demaraha Soomaaliya uu ka tagay kamaan tagin Soomaali haddii la waayo Soomaaliland ma jirayso waa run xil baana iga saaran dadka bini'aadanka meel kasta jooga xil baan naga saaran oo diintaana amraysa waaba muslim waaba Soomaalina xil gaar ah naga saaran marka Soomaalida hadda ima qalaysa ee adduunka daafihiisa joogta nin walowba Soomaali marka tahay meesha joogto xil baa ku saaran dalkaagana xil baa ka saaran diintaadana xil baa ka saaran qofka fiican ee wanaagsan xil baa ka saaran inaad gacan ku siisid waxa wanaagsan isku taagay hadda Cabdi Maalik aba Minnesota yiri waa ikan Cabdi Maalik miftaaxul khayr Allah ka dhigo miftaaxul khayr حديث كان النبي كان كسو ختمه يا النبي يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن مفتاح للخير مؤمنكم مفتاح بو خير وياه ما بكي قرتوي marka Cabdi Maalik hadii Ilaahay ku garansiiyay waan ku garab taaganahay miftaaxul khayr Allah ka dhigo sharka iyo fidnada iyo xiqdiga xasadkana sidii lagu xil lahaa tusaale Allah kaaga dhigo wabillahi tawfiiq inta ka bacdi tawfiiq Allah ina waafajiye hal xadiis baan ku soo khatimayaa waa إذا عمل أحدكم عملا فليتقن بالرسول كيري عليه الصلاة والسلام إذا عمل أحدكم عملا بالحديث كأوفر سوى ريال حدي إذن كميدي شقاق بنايو فليتقن هقرحيو هاي معناه هذا تاي ولا ريال وحويان قف واللي بوح قروح بدن بو دونيا قف واللي بشرف بو ربا عز بو ربا قف واللي بوحو دونيو haddii uu isagu intuu qurxin karo qurxiyo isna waa loo qurxin deetana waxaan helaynaa qoys qurux badan mujtamac qurux badan iyo ummad qurux badan iyo sharaabiyo karaamo qurux badan iyo cizi iyo dal qurux badan iyo dadnimo qurux badan iyo madaxtinimo qurux badan madax fiican buu shacbigu helaya markay dadku fiicnaan way qofka fiican ba qoys fi ka soo baxa madaxweynaha fiican ba shacab fiican ka soo baxa marka Cabdi Maalik waanu ku saraynaaye adaa dadka u sari adaa u saafi doonee waxaanu ku leenahay miftaaxul khayr noqo barnaamij isku taagday dibdiska Soomaaliya iyo inaad geesinimo samayso oo tiraahdo anaa calanka u qaadaya Soomaaliya inaan dhidibada u aaso oo ku soo celiyo karaamada iyo sharafteeda cisigeedii waanu kugu garab taaganahay waanu kugu ducaynaynaa tawfiiqda Allah ku waafajiyo intiina ka soo qayb gashay ee taageeraysaana barnaamijkan آدي أدب ما سنتين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إمام الشيخ سعد. أن عبد المالك وحن رجينا يا إن دعاء إمامك أنت كدم بيسبا أي ربي وقبرين إنه ربي وأقبله. عبد المالك محمد أسكر waxa uu istaagay oo uu diyaar u yahay inuu tartamo jagada madaxweynenimada Soomaaliya hadii Allah awood leeyahay uu ogolaado Cabdi Maalik waa badbaadiyihii dumarka iyo ilmaha Soomaaliyeed aadka u dacdaraysan isagoo oo waliba ku dabaqi doona aqoontiisa aadka u dheer oo uu ka dhaxlay dalkan aanu joogno iyo horumarka uu dalkan gaaray highway-ga ugu horeeyana waxaan u maleynayaa inuu Muqdisho iyo waqooyi galbeed isku xiri doono intaas waa kaftan markaas waan rajaynayaa inuu noqdo kii guushaas ku talaabsada hadii Allah awood leeyahay uu ogolaado markan waxaan jeclahay inaan u baaqo chairman of Somali community of Minnesota horeyna shaqooyin badan oo aad u qiimo badan uga soo qabtay dalkii hooyo professor jaamacadeedna ahaa aan u yeero الزعيم سعيد فاهية كسودو مستر سعيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلامي waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaynu u dabaaldegayno isugu nimi la talinayno Cabdimaalik Askar campaignkiisa iyo madaxweynenimada Soomaaliya uu doonayo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sida idinkuna ugu timaadeen waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan iraado Cabdimaalik anigu waxaan bartay 1997 ayaan halkan nimi waxaan ka bilaabay shaqadan Confederation of Somali Community in Minnesota ilaa hadda iyadii baan ka shaqaynayaa Cabdimaalik intaas aan qiinay waxaan ku arkay in waxyaabo badan jaaliyadda Soomaaliyeed u qabtay kulligiina waa ila qiraysaan bay ila tahay kow Cabdimaalik meelo badan buu ka shaqeeyay halka hadda waxa laga sheegay inuu yahaa suxufi inuu yahay inuu warbaahinta ka shaqeeyo inuu Soomaalida wax u gudbiyo anigu waxaan ku aqaanaa inuu iskuulada ka shaqeeyay inuu jaamacadaha ka shaqeeyay waxaan ku aqaanaa inuu iskuulada xataa qaar wax ka dhisay ee hadda ka jira Soomaalidu leedahay charter iskuulada waxaan kaloo ku aqaanaa inuu halkan community-yada mid aanu la shaqeynin ma jirin ama aanu bari taarin taas waxay ku muujinaysaa qofka yacni inuu naftiisa u horay inuu dadkiisa u shaqeeyo taageero waxa kaloo laba ah taa kaliya maaha Sheekh Sacad baan ku qabsanayaa maalin aan wada sheekaysanay waxaan ka sheekaysanaynay Soomaaliya maxay u burburtay markaa Sheekh Sacad wuxuu igu yiri Soomaaliya waxay u burburtay dadku xumaantaana iska qaban wax kaleba maaha qof baa wax dilaya qof baa waxadaya qof baa gabadh ku saraya qof baa wax sameynaya qof ku oranaya wariyaha George ma jirto war sidaa ha sameynin ma jirto iska badaa inay soo qabtaan oo ama talaabo ka qaadaan waxaan maanta halka idinka qirayaa in Cabdimaalik wariyaha uu yahay community joogo inuu dadka u sheego war sidaasu inaguma habboona haddaynu nahay Soomaali oo inu dul qurbaa ku nool lahay ama TV-ga ka sheego ama qof ahaan ugu sheego ama taas waa qiimo weyn yani waa fiicnaan qofku inuu wax qiimeyn karo Cabdimaalik haddaan maanta oo dhan ka sheekayo haddee iyo taariikhdiisii hore waana layga badiyaa oo dadkan iga dambeeya wax badan ka sheegaya laakiinse waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye oo inuu Cabdimaalik ka filayno oo halka ka sameeyo oo Soomaaliya geyn karo waxa weeye walaalaynta dadka Soomaaliyeed sidoo Sheekh Sacad buu sheegay waxa jira 60kii adu 60meeyadii meelaha maaragtay ilaa 70gii dadka Soomaalidu waxay jeclaayeen militariga Soomaaliya waxa la oran jiray jeeshka iyagoo guuleysta waa wada raggiina markaa jooga wax xasuustaan bay la tahay markaa waxaa jiray nin kooxda maaragtay military koox bay lahaan jiray heesta baxsan iyo waa ka mid ahaa dadkii xusuusta horseed miyaa la oran jiray horseed markaa nin baa heesi jiray markaa hadda anigu sugaanta iyo aad uma aqaano markaa laakiinse waxaan xusuustaa waxaan idin akhriyaa wuxuu oran jiray isagoo ekayd wuxuu oran jiray waddankayga wanaagsan waxaan wacad u qaaday warshado inaan sameeyo inaan wadada u sameeyo inaan waxyaabo badan oo wax ka bilaabmaya uu sameeyay waxyaabaha uu sameeyay wuxuu inaan wehel u sameeyo baa ku jirtay walaalnimo inaan sameeyaa ku jirtay Soomaaliya saad ka warhaysaan 30kii sano aynu dawladda lahayn waxaynu samaysanay wadooyin waxaynu samaysanay warshado waxaynu samaysanay
walaalnimada waa la sameeyey waxaanu la xiranay wadamada carabta waynu ka mid noqonay oo ayidi baynu ka mid noqonay waxaanu galay ruush baynu la walaalownay dad badan baynu la walaalownay laakiin mid aan laga fekerin oo aad u qiimo badnay waxa la in dadka Soomaalida nafahantooda la walaalayo marka Cabdi Maalik waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed inuu walaalayn doono marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Cabdi Maalik waxaan aad u amaanayaana halku dhagan uu yiri waxaan isu taagay dib u dhiska wadanka waa tii maanta loo baahnaa ayaan leeyahay marka qiimo badan ayay inoo leedahay qof isu taagay dib u dhiska Soomaaliya waynu ognahay in loo baahan yahay nabadgelyada ama security-ga waxaynu kala u baahannahay waxbarashada caafimaadka boqolaal wax baynu u baahannahay waxyaabahaas oo dhanna Cabdi Maalik waa ka filaynaa musharaxa 2012 soo dhawow baan ku leenahay waa mahadsantahay mahadsanidkaasi waxa uu ahaa chairmanka Somali Community Professor Saciid Faahiye aan kugu sii daro Professor Saciidow Cabdi Maalik waa dib u dhiska dib u heshiisiinta isku keenaha mideeyaha hogaamiyaha daryeelaha ummadda Soomaaliyeed ee muddada 22 sano aadka u dacdaraysnayd markan waxaan u yeerayaa dhalinyarada tuka waxa la yiri tukow habar dugaago neef dilatay markaasuu raacay oo hilibkii wax ka cunay shimbirihii ba haddana waxay doonteen miro tukii haddana wuu raacay markaasaa la yiri tukow labada meelba waa ku jirtaa waa sida marka wuxuu yiri inta hilibka cuntana waa ugu yarahay inta miraha cuntana waa ugu weynahay shakhsi aan u malaynayo inta meesha joogta inaan ugu weynahay markii uu ahaa xulka qaranka Soomaaliya aan lacag ku daawan jirnay laakiin maanta free baan ku daawan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo guulo badan u soo hoyiyay shacabka Soomaaliyeed bulshada iyo ummadana magac ku leh xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda koleygana ka mid ahaan jiray saaxiib aad igu dheerna ah ayaan markaan jeclahay asagana taageeradiisa isagoo ku hadlaya magaca sportska uu hayo madaxweynaha musharaxa mustaqbalka daryeelaha ubadka iyo hooyooyinka dacdaraysan ee Soomaaliya ninka isku taagay Cabdi Maalik Maxamed Askar waxaan jeclahay inaan u yeero Axmed Daahir Axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وحبضانو وكودر دري آدي آد بان دي سلام يا وحان ديكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفلين إن أنا كحيق دون السعيدي والشيخ أسعد وحاس لها قدال بالان كجل دونتا مركا إيقرها لهذا هدي وركا وحوغا idinku fududaado bismillaahir rahmaanir rahiim salaan kadib waxaan rabaa in aan wax ka iraaho Cabdi Maalik Askar oo runtii aan aad iyo aad u soo dhaweynayo musharaxnimadiisa asbaabahan ku soo dhaweynayo oo ah aqoonta dheer oo durugsan u leeyahay Cabdi Maalik waxaan qiyaasi karaa ama aan hubaa in uu yahay qof ku haboon in uu Soomaali hogaamiyo anoo ka eegaya inta muddada badan oo aan aqoon iyo wax qabadkiisa iyo dadnimadiisa iyo aqoontiisa Cabdi Maalik Askar muddo hore ayaan bartay waa isla soo shaqeynay waxaan iskala soo shaqeynay iskuulaadka iskuulaad badan buu soo dhisay siduu Asad sheegay dhanka dhalinyarada iyo sportiga waxaan aaminsanahay inay tahay laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed loona baahan yahay in ayaga laga bilaabo wax kasta oo la unkayo intaan Cabdi Maalik sharaxaadiisa gelin waxaan rabaa inaanu ka hadalno arrimaha Cabdi Maalik uu naga soo saacideeyay dhalinyarada iyo sportiga sidaad aad ogsoontihiin mujtamaca Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisa joogaba 75
boqolkiiba waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dhalinyaro magaaladan waddankan aanu joogno ee Mareykanka ah dhibaatooyinka badan oo ina ka haysta runtii waxa ina hortaagan muhiimadda koowaad in aan siino dhalinyarada Twin City markaan ka soo qaadno ilaa 3,000 iyo wax la jira oo dhalinyaro ah ayaa jeelasha ku jira sida qaarkiin ay la socdaan waxay u baahan yihiin marka dalkii intaan la gaarin dalkan gudihiisa in wax laga qabto si dalkii wax loogu qabto example haddaan ka soo qaato Cabdimaalig nin dhalinyaro ayuu ku yimid dalka waxbuu bartay ilaa iyo dhowr iyo 10 sano inuu joogo 20 ku dhawaad buu joogaa waa cimrigiisa nus marka la fiiriyo nin youth oo dhalinyaro ah buu ku yimi maantana wuxuu u taagan yahay inuu Soomaaliya hogaamiyo oo madaxweynaha Soomaaliya uu noqdo insha Allah taala waa u rajeynayna marka waxaan leeyahay dhalinyarada waxaad ogaataa hamigaas Cabdimaalig ku jira inuu role model idin noqdo oo gabdho iyo wiilalba idinka laftigiina afisha ka yeelataan waan idinku insha Allah taala waan idinku dhiirigelinaya Cabdimaalig askar sportiga iyo waxbarashadu waa wada socdaan qayb runtii aan la ilaawi karin ayuu ka soo qaatay arrimaha gudaha iyo dabadaba Cabdimaalig 2008kii waxaanu isla bilownay mashruuc ku saabsan in dhalinta Soomaaliyeed ee sportiga la isugu keeno Puntland waxaan u maleynayaa in idinka laftigiina wada daawateen ciyaarihii ka dhacay 2010kii ee ka dhacay Puntland ee la isugu keenay gobolada Soomaaliyeed oo idil marka laga reebo Somaliland laga reebo in ay gid isugu yimaadeen raggii ka qayb qaatay missionkaas dreamka markii lagu fakarayay safarka u galay dalka tagay meelo badan maray ayuu Cabdimaalig kamid ahaa kadib ciyaarahaas way hirgaleen waad aragteen baan u maleynayaa Cabdimaalig dhanka waxbarashada iyo sportiga markaan ka soo qaado Cabdimaalig wuxuu ahaa dalka category buu ku jira Soomaaliyeed 5 level 5 4 3 5 qof ajnabi ma tagi karo dalka Soomaaliya marka ay category-ga ku jiraan 4 sidoo kale 3 markuu tago level 3 tago waxa weeyaan waa la tagi karaa oo riski maaha riski ayadoo ay tahay oo level 4 uu ku jiro dalku ayuu Cabdimaalig wuxuu u bareeray inuu halkaan ka wado macallimiin jaamacadaha ka tirsan Minnesota ka tirsan wuxuu geeyay ilaa iyo Puntland magaalo u geeyay Cabdimaalig garow uu geeyay Boosaaso uu geeyay wuxuu geeyay Laascaan uu geeyay yani arintaas waxay keentay Soomaaliya in ay runtii dib loo war waa la tagi karaa meesha waxa ku xigay tartankii ciyaaraha Puntland markaa waxay ku jirtay category 4 Cabdimaalig wuxuu khayr Allah siiyo rag ka qayb qaatay oo u istaagay maanta inay category 3 ay gasho Puntland ay gasho Somaliland iyo Puntland waa category 3 bay ku jiraan qof kasto ajnabi uu tagi karaa waa safe macna marka waxaan aaminsanahay Cabdimaalig in uu yahay qof ku haboon runtiina leh damiir Soomaalinimo iyo dadnimo danqashanimo dalkiisa dibadda iyo gudahaba waxaana marxaanti ka ah hadee odayaashii iga horeeyay Sheekh Ascad iyo Saciid waxaan marka aaminsanahay Cabdimaalig inuu yahay qof ku haboon inuu Soomaaliya hogaamiyo anigoo wakiil ka ah sportiga Soomaaliyeed waxaan anagoo tixraacayna shaqooyinkii iyo taakulayntii u dhalinyarada sportiga uu ka qayb qaatay anagu waa support gareynayna anigoo ku hadlaya magaca sportiga aad iyo aad baan u mahadsantihiin qadarinta iyo qiimeynta arintuna ma dhowa waa bilow waxa idinka codsanaynaa in maaragtay aynaan maanta ku ekaan halkaan uu sii socdo muxuu ahaay taakulayntu ay soo socoto Cabdimaalig waxaan aaminsanahay hadii
maamulka ilaahay inuu ku hagaajiyo dad garanaya Soomaalinimadu waxay tahay dad garanaya aqoontu waxay tahay dad garanaya waxa ka maqan waxa ay yihiin dad garanaya waxa ay lumiyeen waxay yihiin waxaan aaminsanahay inaynu ka kacayno meesha aynu joogno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ciyaartooyga xulka qaranka Soomaaliyeed Axmed Daahir Axmed weli waa dhalinyar yahay wuu ciyaaraa waxaan rajaynayaa in taageerada aan u hayno Cabdimaalig Askar aanay noqonin madashan iyo af oo kaliya Cabdimaalig waxa uu u baahan yahay heel iyo hoo markan hadal khudbadihii iyo xogaa yar waa daanley waliba aniga kuma sii jiro nin waa yeelanahay waxaan jeclahay inaan hortiina keeno shakhsiyad shariifa qiimo badan aabaheed uu fanaan ahaa fanaaniinta waliba adduunka loogu jecel yahay inta aan anigu kolleyba dhagaysan jiray shakhsiga iigu mudnaa ayuu ahaa waa Sahra Cumar Mahdi Dhuule Cali Sahra ayada ayaa heesaheeda idin soo xushay aanu ku wada nasanno Sahra Cumar adiga leewaay
ان سهرة عمر دورلي علي واي مهدسنتهاي هستي قيمها بنايد علنكا ان qaxootinimadaas iyo dacdarrada dunida daafaheeda nagu haysa waxaan u rajaynaynaa inuu ku guuleysto markaasna uu diyaarado ku daabuleeyo ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dibadda ku dacdaraysan dalkii hooyana uu dib ugu celiyo taasna waa mid u taal Cabdi Maalik Maxamed Askar en waa guuleysanaya markuu guuleysto en markan waxaan jecelahay inaan u janjeersado dhinacii gabdhaha iyaga qaaliga ah geesiyaasha ah iyagu dhibta inta badan ay taabatay haddana daryeelay ubadkii Soomaaliyeed iyo dalkii intaba abaarihii iyo gurmadyadoodiina aan halkan lagu soo koobi karin en gabadhan aan u yeeri doono waxa ay ka mid tahay gabdhaha u tafaxaytay oo taageerada hiil iyo hoogaba ahba la garab istaagay musharaxa iyaga Cabdi Maalik Maxamed Askar en waxa ayna qortay buugga la yiraahdo 4.5 waa kan eednay en waxaan filayaa markaas inay inoo sharaxi doonto en iyo taageerada ay u hayso musharaxa Cabdi Maalik Maxamed Askar aan u yeero Marwa Sharaf Saadiya Xaaji السلام عليكم وأيضا وضع سلامي مدن إيه مرويال دمانتين وأنا مهتسنتهين حفلة قروح بدنا كسو قيب كشان مركا ugu horeysa waxaan boqolkiiba boqol taageersanahay oo runtii har iyo habeen u taaganahay musharaxa Cabdi Maalik Maxamed Askar oo aan aaminsanahay ninkii nabadbaadin lahaa inuu yahay qof walba wuxuu ka hadlayay Soomaaliya laakiin runtii maadaama aan nahay hooyo Soomaaliyeed degan Minneapolis ciyaal haysata teenager wali caada ah waad ogtihiin maadaama maanta aysan ani iga xirnay laakiin dhammaan dhibaato aad iyo aad u badan ayaa ku jirta hooyooyinka Soomaaliyeed ciyaal baa xiran Cabdi Maalik annaga u baahan annaga inuu nabadbaadiyo oo na safe gareeyo runtii saan waddankaygii aan ugu noqon lahayn ilaahina uu ka rajaynayna waxa jirta waxaan qoray book walina muusan iman kamsoon insha Allah ma qan kaamirada soo aragtaan waxa la dhahaa buugan madan bay ahayd 4.5 mise waa doodsi buugaas madan buu ahaa 4.5 mise doodsi buugan waxa iga caawiyay dad aad iyo aad u fara badan oo aan hadhow gadaal macnaha mahadnaqa aan kaga qori doono gadaal dhacdo kasta oo dhacda waxa ka dambeeya qoraallo iyo xasuus hadday noqon lahayd dib ama hadday noqon lahayd dhibaato waxa jiray 4.5 qof walba markii la soo qaado waxa la leeyahay nacam waa fikrad qaldanayd laakiin reasonka ay ku timi iyo sidii ku dhamaatay waxa cadeynaya buugan madanbay ahayd mise doodsi insha Allah kamisuun waxaana hadda kaliya aan rabay inaan sheego inaan buugaas soo wado oo aan uga mahad celiyana dhammaan inta ay dhageysateen waxa kale oo aan taageersanahay Cabdi Maalik Maxamed Askar insha Allah kii guuleysto oo noqda madaxweynaha sanadkan soo socdana Ilaahay baan uga rajaynaynaa waana mahadsantiin en Saadiya en gacanta ayay aad uga hadashaa marka 4.5 ma dambu ahaa mise duutsi marka uu soo baxo jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan jeclahay inay markaasi ka bogan doonaan wali waxa inoo socda barnaamijkii live ka ahaa ee Somali Media maantana aanu u bedelnay barnaamijkaasi xaflad lagu taageerayo madaxweynaha mustaqbalka sanadka 2012 الزعيم بروفيسور عبدي مالك محمد أسكر wiil yaro dhalinyarahan hortiina keeni doona oo isagana u hadlayo dhinaca dhalinyarada iyadoo dhalinyaradu ay maanta ahayd dhibka ugu badan cidda uu ku dhacay haday ahaan lahayd dhimasho dhaawac intaba waa kan الزعيم حاجي warsame laakiin waa wiil yar magaca weyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدن مشرح عبد المالك محمد عسكر مدني مروين با again waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal magacaygu waa xaaji warsame sidaa la socotaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay niyadda ku hayaan sidii loo heli lahaa qarannimadeenii Soomaaliyeed waxay niyadda ku hayaan sidii loo heli lahaa dawladnimo kaafisa baahida shacabka Soomaaliyeed waxay niyadda ku hayaan sidii adduunka horumaray ay wax loo qaybsan lahaayeen walaalayaal sidii arrinka loo heli lahaa waxay la tahay waxa uu istaagay saaxiibkay Cabdimaalik Maxamed Askar waxaan leeyahay guuleyso walaalayaal taariikhda waxay xusaysaa 10 sano la soo dhaafay in aan fursad u helnay niman ama rag sidiisoo kala ah oo aqoon leh inay isku dayeen inay wax ka qabtaan baahideena shacabka Soomaaliyeed waxa kamid ahaa Professor Maxamed Ali Geedi waxa kamid ahaa Professor Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke waxa kamid ahaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhamaantood waxay ku guuleysan waayeen inay noo soo celiyaan qarankeena Soomaaliyeed waxaan ka baranay waxa weeye sababta u diiday inay gaaraan goolkay lahaayeen waxay ahayd laba waxyaalood midda u horeysa waxay fursad u heli waayeen system ay ku suurageliyaan objective-koodii oo ahaa raadinta qaranka Soomaaliyeed waxay kaloo ku guuleysan waayeen in ay helaan team karti iyo geesinimo leh u istaaga shacabka Soomaaliyeed aniga maanta waxa la igu yiri waxaad ku hadlaysaa magaca dhalinyarada Soomaaliyeed walaalayaal sidaa la socotaan dhib kastoo jira waxa dadka ka saara dhalinyaradooda Cabdimaalik wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u soo kacday Soomaaliya aqoon u leh baahida maanta wadankeena ka jirta anna waxaan leeyahay oo aan halkan u imid inaan ka muujiyo endorsement aan siinayno anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada meel kasta joogaanba waxaynu leenahay Cabdimaalik waynu kula jirnaa guuleyso waxaan halkan fariin u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhawaanba oo indhawaalaba la sheegayay inay qoryo wataan oo wadankii uu ka degay laayahay waxaan leeyahay walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa in aad qoryaha dhigtaan oo aad qalinka qaadataan maalin dhaweeyto waxa iigu yimid xafiiskayga nin dhalinyaro ah badanaa wuxuu igu arkay anoo siyaasadii ka hadlaya wuxuu i weydiiyay warwarsamow ka waran shirki ka dhacay London markaas waxaan aga sheekeeyay sheeko hore u dhacday sheekadaas oo ahayd sida la socotaan waagii gumeystaha uu imaanaya Afrika kuma uusan imaan asoo qoryo wata markii u horeysay wuxuu watay jaakad dheer iyo wuxuu watay kitaabkaas oo ah kitaabka ay aaminsanaayeen oo ah Bible-kooda waxay u yimaadeen niman Afrikaan ah oo nabad ku jira haysta waxay cunaan haysta sida la socotaan dhaqan waxaan u leenahay inaan afar xaasi waxyaabo noocaas yeelano oo ay isku dhacsanta nimankii cadaanka waxay yiraahdeen bal inoo warama markaas waxay yiraahdeen waxaynu ka nimid meel fog waxaan loo sheegay inaad tihiin dad fiican oo Afrikaan ah oo dadka soo dhaweeya saas ayaan idinku nimid waxa inta inoo dheer waxaan wadanaa waxaadan idinka haysan oo ah kitaabkan Bible-ka markaas nimankii Afrikaanka ku yiraahdeen waa idin soo dhaweynaynaa bal noo sheegay kitaabku wuxuu leeyahay kitaabkii ay u akhriyeen dhowr cisho maalin maalmaha kamid ah waxay ku yiraahdeen kaaliyo waa tukanaynaa markaas waxay yiraahdeen
indhaha isku qabsada kitaabkana dhinaca kale ka qabta markaasay sidii ayay yeeleen nimankii Afrikaanka ah kitaabka saa u haysteen markay indhaha kala qaadeen waxay arkeen nimankii cadaankoon meeshii joogin iyo ayagoo kitaabkii ku dhagan waraaqa wax kala faroogu jireen markay saa u eegeen dhulkooda dhan waaba la qabsaday hadda Soomaaliya waxa ka socdo waxa weeye hogaankeenii Soomaaliya diyaaradaha lagu soo qaaday London baa la keenay waraaqa loo dhiibay wadankiina waa loo dawmaray 20,000 oo ciidan baa la geeyay wax faro ugu jiro ma jirto waxay haystaan communique 26 qodob markaan intaa ku yiri wuxuu yiri warsoo baash meel xun baa geysay markaas waxaan yiri ma fahanto waxaan ka hadlay markaasuu yiri maya waxaan yiri annaga iyo ragga kula daadaadaba mustaqbalkii Soomaaliya faruu ka baxay number 1 waxaan dhahay communique-ga waxa ku yaala in dhaqaalihii wadanka niman kale ay mas'uul ka yihiin oo dhaqaalihii wadankeena midda labaad waxa ku yaala in wadanka la keenayo ama la gaarsiin doono 17,000 ilaa 20,000 oo ciidan ah amniga wadanka faraha nooguma jiro waxa inta inoo dheer niman inkaar qabo oo ICG la yiraahdo ayaaba loo dhiibayba in international community ay mas'uul nooga noqdaan marka meeshaan u socdo waxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in ay take care ku sameeyaan dhalinyaradooda ay ka caawinaan iskuulka ay aadayaan ay ka caawinaan pocket money-ga ay ka caawinaan fikirka ay ka caawinaan waxyaabo badana BBC ama Voice of America successfully waxay sheegaan wiil yar baa qoray wata ay magaaladiina ka degi laaday Muqdisho ka degi laaday Kismaayo ka degi laaday Garowe ka degi laaday waxaas waxba kama jiraan annaga halkan waxaan ku haynaa aniga waxaan horbood u ahay professional networking ay isugu yimaadeen dhalinyaradii halkan ka soo qeelan jibisay sanad kasta waxaa noo soo qalan jibisa more than 500 brand new kids oo hadda soo qalan jibiyay inta lama sheego oo taqaatiir leh macallimiin leh injineer leh wax kasta leh waxaan leeyahay Cabdimaalik raggaas ayuu ka mid yahay waraaq ayaa la ii dhiibay waa jeclaan lahaa inaan sii hadlo Cabdimaalik waxaan kula dardaarmayaa ama conditionkan ku xirayno supportigeena wuxuu yahay in uu ka waantoobo wax alla wixii ay nimankii ka horeeyay ku kaceen that's waa condition midda xigta fikirkan ah in wadanka dib loo dhiso waa in loo helaa the right people waxa kaliya ee suura gelin kara waa in loo helaa the right people dad ehel u ah raadinta qaranka Soomaaliyeed halkan waxaana la jooga Professor Saciid oo kale last 15 years dawladihii la dhisay kuma uusan jirin waa dhibaatooyinka kamid ah oo u baahan in la xaliyo wasiir ku yimid 4.5 habeenna kama sugeyn inuu qaran inoo keeno wasiir ku yimid 4.5 sidaan wasaaradda ula dhisi karaa aniga lama dhisi karo lama shaqeyn karo waa nin reer intii shahaadooyin soo qaatay reer baa xaafad ku xirtay ninkaas lama shaqeyn karna aniga marka Cabdimaalik waan kula dardaarmeynaa dadka qaranka lagu dhisayo waa inay ahaadaan dad ehel u ah raalli ahaada hadda hadalka badiyay waxaan kaloo fariin u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee halkan naga daawanaya fari kali fool ma dhaqdo ay ahayd maamaada waa laga badiyaa waxaan idin ka codsan lahaa inaad garab istaagtaan Cabdimaalik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xaaji warsame waa uu mahadsan yahay barnaamijka Somali Media waxaad ka daawanaysaan MTN and I want to say thank you very much MTN staff today
barnaamijku waxa uu socon doonaa ilaa iyo 7 fiidnimo daawadayaasheeda magaalada Minneapolis iyo barta internetka waxa aan leenahay waxa aad daawan kartaan ilaa iyo 7 livestream.com debate of Somalia ayaad barta internetkana ku gali kartaan markan wali waxaan u janjeersanayaa dhinaca dumarka anigoo ah waliba taageero aad u taageero dumarka Soomaaliyeed kaalintoodii wax ku oolka ahayd busaad ayaa ii qoran laakiin busaad waa ay ka gaabsatay waxayna aan door bidnay macallimad Soomaaliyeed shaqo fiican ummadda u soo qabatay ilmaheeda soo barbaarisay ilmihii Soomaaliya wax ka soo barbaarisay inaan markaan hortiina keero si ay taageero hiliyahooba ah ugu fudiso hogaamiyaha aanu rajada ka sugayno Cabdi Maalik Maxamed Askar waatan Marwo Sharaf Ubax Olol السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور وأيدين سلامية دمان مرتدى الشرف تكسو قيب قشي حفلة دعاتك وقروح بضبنا اللي ودو ياري قروبي دي بوديسكا دالك الصومالية 2012 وكقيب قليو عبد المالك محمد أسكر رون أهانتي آدبان وقو فرحي عبد المالك مركو يمت سدح الريموت بوان وقو فرحي قفك وحال لغايقا كوالتيقا إيا الدأذا إيا مسكحضا مسكحديسو waa maskax fiyo quality-giisuna waa quality aad u sareeya waa mujtamac qofka markuu qiimo ku leeyahay ayuu mujtamac kale u tagayna qiimo ku leeyahay marka aad eegto Cabdi Maalik isagoo dagaal socda ayuu Soomaaliya xog ahaan xogtar dhabta ah uu kaga soo waramay magaalada Muqdisho isagoo live ayuu noo soo duubay ilaa iyo gobolada oo dhan iyadoo taa ay jirto haddana Cabdi Maalik waxyaabaha kale oo aan ku taageeray waxa uu ka soo jeedaa شخصياً ضدك ديدن إن صوماليا إكلا جوض صومالي بالي صوماليا وقويس وأنا نينك كلية إيمانة الله أركو إنه صومالي حريرك جود يمد جار هاند بكسر علين كرا عالم كإسلامك يا عالم كمجتمع أردن أو الدون كأردن مرك عبد المالك أسكر وحان ليه هاي إن هذا روكوي قريقة أرجني هذيك كوكي قلين كناقة النقاء oo qiimaha qalinka soo celi waayo waxa la yiri kaada muallimo an yakuna rasuulan macallinku waa risaalo ama rasuul lagu soo diray ninka aqoonyahankana waa taas oo kale aqoonyahanku waxa weeye al ilmu nuur wal jahl dhulaam aqoonyahanku waa cilmi nuura jahliguna waa dhulmi maadaama Cabdi Maalik Askar uu yahay aqoonyahan suxufiyiinta dhabta ah ka hadasha mar walba barnaamijka uu soo saarana uu yahay barnaamij tarjumaya Soomaaliya sidii xal loogu heli lahaa iyo Soomaaliya sida isugu imaan lahayd qaabka miidiyaha waa qaabka kaliya qof kasta oo aan banaan u bixin uu kaga qayb qaadan karo asigoo gurigiisa jooga haddaba wuxuu yaabaha uu Cabdi Maalik gobolkan ka hirgeliyo waxa kamid ah nabadda Cabdi Maalik aad baan ku sibood gareynayaa waa ku garab taaganahay gaar ahaan haweenka waxaan kala dardaarmaya Cabdi Maaligow raggi waxay nagu noqdeen dhilqa iyo duudiye bal ina adeerow adiga waxaad samaysaa dumarkii iyo caruurtii dib ugu noqo marasta daryeelo dibadii si aan uga noqon lahayn adigu falankeeda adaa laga sugaya annaguna waa kugu sii bodgareyn karnaa meeshan labadan bilaa dhaykeerkan la is ilaalinayo inaan ka baxno taasna waa kala dardaarmaya waxyaabaha aan ka rabo inaad noo qabato dumar ahaan ayay tahay midda kale aan ku darayo aan dabacsanahay maanta inaan kala hadlo gabadha buuga qorta 4.5 in adeer haddaad ku dari karto su'aasha jawaabteeda waa dulmi aan ka soo horjeedno 4.5 waa duudsi waa dhac waa boob ninba ninkuu ka qawowen yahay buu quursid baday laakiin qiyaamaha taa ma jirto buugana ku qor waa dulmi waa duudsi waa dhac waa boob وانا ليس قد بإيمانه يا تا دبضانا ليس هيا أنا جاي بديدن ساعدها لقى باللابن هورنا وديدنا إن تنا عبد المالك وحنكون كاعد صريح عبد المالك هرتوا تقول إيه سنة ساعة ويا واحد تاجنت هاي أما أتكسر جدا بريج كصومالي يودن إسكحرة ما دام بريج كاس هاي سنة وصومالي كاجا ما مارنتو حدا تقول إيه ستو وين كلك فتما يا رجع وزير ده حكومة صندوق مركون إيك سلام عليكم marwo
ubax olol aad bay u mahadsan tahay guubaabada cabdimaalig askar ninbaa ubaxay waxaa laga sheegay guubaabo dumar baan qabaayo soo nabad noqon maayo marka inuu cabdimaalig orod meesha ku galaan ka baqaynaa waa mahadsan tahay cabdimaalig maxamed askar taageerada shacabka iyo jaaliyaddu ay u hayso ma aha mid halkan lagu soo qiyaasi karo weli waxaad naga daawanaysaan barnaamijkayagii live-ka ee Somali Media oo aanu maanta idinkaga soo tabinayno stuudiyaha MTN markan waxaan jeclahay inaan u yeero shakhsi jaaliyadda shaqo fiican u haya weliba gabdhaha iyo caruurta aadka u jiran masawirada qaarkood oo indhuhu ay diidayaan in la daawado u ololeeya daryeelkooda u ololeeya sidii loo daaweyn lahaa Carmelna baabuurta ku kala celiyo shaqo fiican halkaas ka qabta waa kan saaxiibkayga qaaliga ah Mr. Roble من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مركو ورس وحنا وسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات كمان أنت وحن هل كانوا يمد إن تاجرسي صاحبك عبد المالك هذه عبد المالك إن شاء الله وحن لبا من إذا هنا كهالله إن شاء الله عبد المالك وحوها فرحت بيتها والله مركز هل كان عبد المالك مركز اللي يقول مدحوني بو سعدان عبد المالك وحويان شيء قرا قفك قراته أبارها الصومالية مركي دعين iyo TV-ga aad ka aragteen caruurta yaryar oo sanadadan ugu dambeeyay Soomaaliya dibka ka taagan waligeed meelahan Soomaaliya ilma yar oo halka hore iyo halka dambe isku furmay waligeed meeno arag 20 sano ka hore Soomaaliya cancer meelaheed 20 sano ka hore wax la yiraahdo lama aqoon cancer ka wax la yiraahdo عبد المالك وحها والله مركا رنتا كهالله أنا والله يابن عرضن يرير مساكين تا أو باباسن أو ددوم مغنين أيان بالين معلمها إسرائيل دي عبد المالك وحالي حوكس كمان نقول نيو تي في بعد لهذا هنري الصومالي أنا بروبلم كم بهكجرا وإيمد وحولي ولا لو روبلو إلهي بينو قرب قال إيه TV كالي عبد المالك وحاش شخصية الصوماليات أو كقيب قاتي عرورها مانتا الصومالية بقول كونوا قدي منايا ما هن قاجدة قرات حنون كدزيز كوحليرة أولي جدا عبد المالك وحويا شخصية قراتا الساقة هي عبد حيو قلبيتي إن عبد آر waxay ka mid ahaayeen abaartii hadda aad ogeydeen ee dhacaysay dhowr jeer TV waad iga aragteen anigoo inile war dadkan ha loo gurmado ay dad yiraahdaan war musawiradan hana laga qarin wallahi in musawiradan laga qarinayn liino dadkaas ilaahay waa leeyahay subhanahu wa ta'ala laakiin ilaahay inaku wax noo dhiibay ilaahay muxuu noo dhiibay dollar iyo hiid iyo baraf ayaanu nimid baraf meelana ku galnanaysana عبد المالك وشيء قرات وشخص قرات وعرضته ويستاجي عبد المالك وحو للسي هي ذا بدنا عن مقشين سيد عبد العزيز ماحي صوما كير فانديشن عمود فانديشن دتكم ما يقول دتكم العقبة وذهين حقين وحكوا ومدة أنجارسينا عبد المالك زكريا هذا عبد آر قلبيته وحي رجي انت يستاجين TV gooda noo furay in ummadda la gaarsiiyo maanta waxaan aad ugu faraxsanahay Abdul Malik yani hadii ummaantu istaagay madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo alxamdulillah rabbil caalamiin waani leeyahay liino dhowr jeer waxaan arkay aan maqlay nin PhD wataya jaamacadu ka soo baxay waa professor ayaan daran laakiin sacabka wuxuu u tumayaa نغير بادية ABCD قرنين يعني وهبارك نقول دعي كمته
kii tacliinta yaqaanay in la yiraahdo halkan fadhiiso kii aan waxba garanaynin in la yiraahdo haye noor soco ama qoysa lagu riixo ama waxa lagu riixo cabdimaalig waxaan leeyahay ilaahay baana kula garab galay insha Allah biiznillah xaqana ilaahay baa ku tusi laakiin dhibaatooyin badan waa ka horeeyaan raganimadaada ku xiran tahay sidaad uga talaabsan doontid ilaahayna wakiilo subhanahu wa ta'ala wayna ilaahayna uu kugu garab qaban insha Allah cabdimaalig wuxuu ahaa eray baa jiray aan iloobin waligii oo maalin igu yiri marka runtaan ka hadlo gabadh yar baa jirtay waxay jirtay gabigeedu waxaan ma wiil yar buu ahaa gabigiisu wuxuu jiraa waxaan sanad iyo 4 bilood ahayn yani waa shayda mucjizooyinka oo ka dhacday Soomaaliya wiilka yar musawirkiisa aan tusay wiilka yar haddaad aragtiin quruxdiisa ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala siiyey physically wuu dhan yahay wuxuu jiraa almost couple pound ayuu jiraa wuu qurux badan yahay waa cad yahay anigayga waa iga cad yahay baado ilmaha wiilka yar laakiin ayaan daran calooshiisa halkaas naaska hooyadii markuu nuugayo caanaha meeshay marayaan baad arkaysaa biqudratillah biyaha markuu cabayo biyuhu meeshay marayaan baad arkaysaa adig ka soo qaad calooshaada oo xuubkan laga qaaday cabdimaalig wuxuu ka mid ahaa dadkii carruurta u istaagay gaalka dil baa la yiri laakiin gartiisa si cabdimaalig ilaahay khayr ha siiyo abaartii ugu dambeysay aad ogeedeen Soomaaliya maanta 100 jeer TV-ga ka daawateen waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa insha Allah biiznillah horey noo aragnay dad badan oo madaxweyne u orday wasiir u orday let's be realistic maxay soo qabteen runta markaan isku sheegno maanta badeeni wayni ka arkaya qashin baa ka buuxa wadana u tartamaya shirkad kasta waxay ku leedahay pirateska ana qabanaya ayuu taalan mi runta isku sheegno meel inta soo wadano xoog la iskugu tageen 20 ilaa 40 maraakiib oo dagaali joogto wiil yar intuu AK47 soo qaato ayuu markab afduubaya waxba ka dambeeyay adduunyo way tashatay innakuna waynu tashanay maxaynu ku tashanay cabdimaalig inaynu madaxweyne ka dhigano Soomaaliya hal loo duceeyo ilaahay tala saaro dib kastana waa la soo mari ilaahayna waa naga qaadi doonaa insha Allah biiznillah waa wada jeceshiin dhulkeena lagu wada noqdo been la isku sheegin ilaahay ha ilaaliyo isagana assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad buu u mahadsan yahay saaxiibkayga qaaliga roob lacade waxaanan u rajaynaynaa ducadaasi inuu rabbi u aqbalo cabdimaaligna kii dalka iyo dadka hanta inuu rabbi ka yeelo markan waxaan jeclahay inaan u yeero culummada islaamka ah Soomaalida ah ee magaalada sheekh kamid ah waa kan Cabdiqani Qardaawi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهى كبعدي أرتوحي وعد يواناها شيخ سعد بعدمي intii uu noo sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu anfaco inta waxa sii dheer arinta la isugu yimi meeshan oo ah Cabdimaalig inuu isu sharaxayo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya intaana taageeradiisa u gudbin
waxaan ku horumarin lahaa in qof walba ogaado arrinkan qofku inuu istaago maamul waa arrin aad iyo aad u weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay oo shaqo ii dhib meel ii dhib buu ku yidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska daa maxaa yeelay innaha nadaama yowma alqiyaama maalinta qiyaama marka la tago qofku waa qoomamaynaya bal nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay qofkii laba qof dhexdhexaadiyaa wuxuu la mid yahay qof sakiin lagu gowraco kale qof la gowracay bighayri sakiin la'aan taa macnaheedu maaha qofku inuu ka cararo dadka inuu mas'uul u noqdo dadka inuu madax u noqdo laakiin taa macnaheedu waxa weeyaan in la ogaado qofku inuu qaaday mas'uuliyad aad iyo aad u weyn qodobka labaad wax ka tilmaamaya waxa weeye Cabdimaalik inaan wax ka iraahdo buu ahaa istaagan soo istaagay meeshani iyadoo ay keenayso inaan wax ka iraahdo inay tahay Cabdimaalik inaanu galaas wada qaadanay ama aanu isgalaas muddo ahayn iskuuladaas aan aadnay oo ku saabsan waxbarashadu qaadanayay oo ahayd booska uu maanta u istaagay waxa loo yaqaano leadershipka saynu wada ognahay lama tilmaamin baan u malnahay bilowga hore in gadaal laga sheegi doono ma aqaan yani Cabdimaalik waa arday hadda diyaariyay waxa loo yaqaan Doctor of Leadership Doctor of Leadership na waxa weeyaan ama EDD waxa loo yaqaano Educational Doctorate waxa la yiraahdo waxa loo isticmaalaa waxa arts marka la qaadanayo PhD da loo yaqaano PhD du waa philosophy of doctorate laakiin markii la qaadanayo leadership waxa loo yaqaano hoggaanka loo yaqaan iyo dhinaca educationka waxbarashada marka la qaadanayo waxa la isticmaalaa waxa la yiraahdo EDD oo macnaheedu yahay education of doctorate mawduucaas oo ku dhex jira isagoo waliba ay tahay qaybaha kale oo koorsadan u qaybsan tahay waxa la yiraahdo Doctor of Leadership oo macnaheedu yahay qofka inuu ku qaadanayo darajada sare oo PhD loo yaqaano oo ku qaadanayo maadada loo yaqaano leadershipkuna waxa weeyaan waa wax hoggaanka loo yaqaan seen ognahay dadkan gaalada ah waxa degsaday leadershipka iyo managementiga laba wax baa loo kala yaqaanaa managementigu badanaa waxa weeyaan waxa loo yaqaan maamulka leadershipna waxa weey hoggaan organization qofku inuu hogaamiyo ama qofku inuu dawlad hogaamiyo waxa runta cajiiba marka Cabdimaalik doctorate-kaas aan wada qaadanayno wuxuu ku qaadanaya waa leadership masterka wuxuu ku soo qaatay management qofka ay managementiga iyo leadershipku ay isugu hagaagaan oo labada barta waa qofka awood u leh inuu hogaamiyo organization waxa loo yaqaan ama government waxa loo yaqaano maxaa yeelay managementiga uu master ku soo qaatay waxa lagu bartaa waxa loo yaqaano planning ama organizing ama directing ka bacdina controlling ba u isticmaal waxa la yiraahdo afarta qodob buu xoogii saaraa si qofkaani dawladda uu maamulayo ama organization kan uu maamulayo oo barnaamijka u helo dhinaca kale oo leadership loo yaqaano iyadana waxa lagu barto waxa weeyaan qofku inuu caawiyo hogaamiyo dadkaana si u gaar lahayn goolkooda u gaar lahayn marka labada waxyaalo qofkii isugu yimaadeen runtii waxaan oran karnaa waa qof wax ka saari kara wax qaban kara weeyaan Cabdimaalik marka waxaan ku baraarujin lahaa maadaama hawshan uu istaagay aqoonteedana uu leeyahay waa wixii loo baahnaa weeye waxaan maalin dhageysanayay nin Soomaaliya meel madax ka ah oo la yiri waxbarashada nooga sheekay idaacad baa wareysanaysa marka wuxuu yiri anigu waxbarashadeeda sanadka 7 baan uga tagay waa dugsi dhexe weeyaan laakiin aqli baan hayaa aqli baan wax ku hogaaminayaa sanadka 7 macnaha waa galaaska 7 baan uga tagay weeye aqli baan wax ku hogaaminayaa marka aqli wax lagu hogaamin karo qofku waxa yaqaan waxa la rabaa waxa kan maaragtay meesha ka socda iyo maamulkeeda iyo qaabka loo hogaaminayo qofku laga maarmaan inuu yaqaan khasab weeyaan waxaan ku taageerayaa marka waxbarashada uu qaatay inkastoo la isoo qoro waraaq isla markiiba laakiin ma ku dhagaadagaya xogaa hal daqiiqan ku daraya insha Allah waxbarashada oo hadda ku jiro ama maadada aan leenahay classmate baan ku nahay oo wada qaadano qofka saddex waxyaalood baa lagu baraa saddexda waxyaalood marka fiiriso waxa ku soo baxayo qofkaan hadduu daacad yahay inuu ummad hogaamin karo leadership and management waan tilmaamay qodobka labaad lagu baro koorsadan waa koorso 67 yani kredit waxa loo yaqaanaa
coaching and team building waxa la yiraahdo maxay tahay ummad meel isugu timi saa u coach garan lahayd saad isugu ururin lahayd waxba u dhibtay wasaaradan saa u dabagali lahayd team building waxa weeyaan kooxda wax u diraysa u hagaajin lahayd waxa kale oo laga qaatay ama mataqaana lagu barta kamid ah qodobka saddexaadi the process of change waxa yiraahdo ummad meel aad hogaaminaysid oo qaab ku socotay qaabkaas oo asleeda wuxuu yahay aad u bedelaysid maxay qaab kale oo ka wanaagsan waxaan ku soo gabagabeynayaa koorsada uu qaatay wadaadku oo gelisay inuu noqdo hoggaan noqdo leadership baa la yiraahdaa leadership kana waxa la yiri waxay yaani la dhilgaraysaa with change and inspiration innovative and influence waxa la yiraahdo wana waxyaalaha maanta markaan runta sii fiiriyo dadkeena wadanka jooga oo maamulaya wax wadaya waxyaalaha u waaweyn oo ka maqan waxa weeyaan dadkiina inspire garayaan waxa ay doonayaan dadkaani inay u keenaan oo tusaan si dadkay motivation u helaan oo wax u soo baxaan ma jirto nin kasto meel u dhiibaa aqoontii uu dadkan ku hogaamin lahaa ma jirto laakiin se wuxuu markaa ku mashquulaya boorsadiisa inuu buuxsado waxa maqlaysa hebel wuxuu u ordaya wax kale maaha waxa la rabaa in boorsadaas buuxsada la rabaa marka waxaan oran lahaa runtii arrintan maanta Soomaaliya waxa baabi'iyay oo eber ka dhiga waxa weeyaan oo aqoon la'aanta dhinaca leadership waxa loo yaqaano haddaynu helno ummad u istaagto leadership taqaana arrinta aanay gacan ku sanay loo baahan yahay waxaan ku soo gabagabeyn lahaa maadaama aan runtii ku taageeray waxbarashadiisii inaan isu fiiriyay iyo booskan ordayo aan gacan ku siinayo ugu dambeyn inkastoo iga ballan qaado ii sheegay isaguna ummadii hoggaan ma gaarto waxna ma qabsato ilaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xiranta mooyee waxa la doonayaa qofka maamulka noqonaya inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa wax ku xukumo nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay qofka wadan meel degan ama qolo meel degani madaxdoodu yaani kitaabka Allah subxaanahu wa ta'ala waxaana isku maamusho ilaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala barnaamijku wuxuu uga soo diraa ciidan ama cadow uga soo diraa oo qaata wax dhexdooda yaalla هذا وقت لا شك أنا كورما ورسمة كورماي برنامج بالونو كيمي وضن كين وحيا لا بلقاتي وحكينا سوى حويان إننا نكتبنا كتاب الله سبحانه وتعالى مركب وعن كبر رجل لها وخوتها قرصنا قعنا وخوسينا قونت ذو الله هاي لكن دينا عاس كتاب الله سبحانه وتعالى إن كد ذا شو إلهي كحرنا تلقى مرما وي والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم جزاكم الله خير. أن ومهتسين يا شيخ عبد الغني أن مشرفين تا ميكروفون كلو عزومي وحكوت سنة يعني وقتها إلى اليان أن ويرو أن هوي الصوماليات تختارت قيمة بدن مرول بأوتاجن دنتا إيو دريالكا أمد الصوماليات جوبها دلك وحلو قبنينا أن لجواين واتن توريسا لول حسن حسين أما لول حسن لاري دال فر بدن با كم مقد الشقة بدن بيساق قبته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وان إذن سلام يا مروين كشرفت له دلنيارده odayaasha madaxda dhamaantiin xoogaa waxaan ka cudurdaaranayaa runtii aadna waa u daalanahay xoogaa jugna waa i gaartay maaragtay lug baa xanuunaysa salaanka bacdi runtii muddadii sanadkii u dambeeyay maaragtay shirarka Soomaalida ama meelaha la isugu yimaado aad baan uga gaabsaday runtii ay tahay anigoo saluugaya maaragtay sida maaragtay Soomaalida ay u socoto ama ay u dhaqmayso ama siyaasadda ay isu bedeshay ama maaragtay ummaddu ayna daacad u ahayn ama maaragtay ayba xataa dhexdooda ay ku jirto maaragtay isna ceeb xiqdi iska hor imaad qof kasta oo Soomaaliya oo aan qofka kale oo walaalkiisa aan u quurin ama aan u ogolayn waxa uu yahay ama uu maaragtay ku tilmaamo laakiin maanta arrin aan la baaqan waayay ama aan uga hari waayay indhaha uga qabsan waayay ayaa meesha taala Cabdi Maalig Askar runtii
wax walba waxay leeyihiin hiddo iyo dhaqan laga soo dhaxlo ama laga gaaro maaragtay awoowe ama aabe ama magaciisi sinji cabdimaalig maaragtay anoon soo koobi karinin maaragtay wanaagiisa waxaan aaminsanahay inuu kasoo dhaxlay maaragtay aabihiis awowgiis reer askar oo runtii maaragtay taariikh wanaagsan ku leh meeshii ay maaragtay ama ay kasoo jeedaan ama ay maaragtay ku abtirsadaan taas markii aan kasoo tago runtii cabdimaalig ma ahan qof ammaan u baahan ama in la dhoodhoobo ama la sharsharxa u baahan cabdimaalig waxaan wada shaqaynaynaa ama aan aqoon u leeyahay mid hoose iyo mid kore iyo nooc walbaba muddo ilaa dhowr iyo 10 sano cabdimaalig cilmigiisa anigoon ka sheekayn kuna ammaanin shaqsiyadiisu cabdimaalig waa nin shaqsiyad wanaagsan waa nin akhlaaq badan waa nin dal iyo dadba jecel cabdimaalig waa geesi naftiisa u hore dalkiisa iyo dadkiisa haddii aan examples aan soo qaato waxay qaadanaysaa waqti dheer waqtiguna iima masaabaxayo runtii haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed tira ahaan markii mujtamaca Soomaaliya loo fiirsho 70% ayaan maraynaa mar dhow ragga waaba ku soo laban laameenaayo waxaaba halis ugu jirnaa 100% inaan gaarno ragga waa dhamaaday si kastaba ha u dhamaado haweenka waa noolnahay waa tarmeynaa wadankana awoodiisa waxaan u maleynayaa melana ma aha 70% awoodiisa haweenku inay yeelan doonaan waxaa la gaari doonaa oo soona socota ragga arintaas xoogaa waa ka qiiroodeen waxaa soo socota haweenku qof ay doorteen ama ay sharaxeen ma ahan qof kale inuusan soo bixinin taasna waxaa keenaysa daacadnimada tirada aan inay ka badannahay cabdimaalig haweenka Soomaaliyeed horta intaana aanu u gudbinin Soomaaliya xadaaradeeda waxay ka bilaabatay sanadihii dambe Minnesota ayay ka bilaabatay cabdimaalig wuxuu ka soo jeedaa reer Minnesota-na 80% haweenka ku nool cabdimaalig waana taageersanahay waana soo saarina insha Allah wuuna noqon doonaa madaxweyne wax yar oo sakareed noo ah hadaan nahay haweenka ayaan caawa cadeynaya haweenka hadaan nahay muddooyinkii dambe oo dhan waxaan soo wadnay inaan doorano haween gabar haweene oo madaxweyne ah oo la yiraahdo maama kutube markii aan aragnay aana maaragtay runtii ka xumaanay sida raggu yeelayo say isu haystaan saynaba dalkooda maaragtay dan uga haynin si ay maaragtay dalkoodii oo baaba'aya ama dadkoodii oo baaba'aya ay kursi isugu ciirsanayaan laakiin maanta laga bilaabo maadaama cabdimaalig oo madax u ah haweenka cabdimaalig oo madax u ah maatida cabdimaalig oo madax u ah inta liidata cabdimaalig oo madax u ah inta minority-ga cabdimaalig oo madax u ah wax allaale wixii Soomaali jecel cabdimaalig oo madax u ah wax allaale wixii Soomaalinimo ku mintidaayo arintaas dib ayaan u dhiganay waxaan ku mintideynaa cabdimaalig sidii aan u soo saari lahayn taas markaan ka tago cabdimaalig amaantiisa ma soo koobi karno mana maaragtay aan qiyaasi karo hadaan dhaho cabdimaalig amaantiisa ayaan koobayaa waqtiga dhan waa iga tagayaa hal codsi ayaan maaragtay aan ku darayaa horta cabdimaalig waa nin mutacallin ah waa nin high school dhameeyay haday 7 grade baan maqnaayay waa ajaa'ib high school dhameeyay jaamacadii bachelor qaatay master qaatay PhD maraaya waxaan u maleynayaa cabdimaalig maanta cilmi u dhiman oo loogu ciil qaba ma jiro waxa u sii dheer inuu bartay maaragtay hadii cilmigii ugu dambeeyay wax lagu hogaaminayo xoogaa hadal yar ayaan waxaan rabaa oo codsi ah oo qof kasta oo Soomaali ah markuu meel is soo taago uu ku hadlo inaan taas iska iloono waa hadii aan rabno dalkeena iyo dadkeena inay noo hagaagaan complain ka badan oo aan complain gareynayno maamuladeena madaxdeena siyaasadeena Soomaaliya markii Maxamed Siyaad Barre dhacay dhakhtarad baan ahaa inteedaan la ekaa dadka waxaa la igu tariyaa ahaan markay noqoto hore u batay aqoon
iyo waayo aragnimo fiicanna dalka iyo siyaasadda u leh maxamed siyaad barre markii uu xukunkiisa jiray qof kasta oo Soomaali wuxuu dhahaa wartan dawlad ma ahane bala ha degtay yaana mootiyo sidii bay noqotay baladii baa degtay waana mootay hadaay wiilka wuxuu yiri maaragtay hadda siyaasadda Soomaaliya ka socoto waa guracantahay waa qaldantahay cadowba inoo yimid ciidamo shisheeya inoo yimid war horta sideedaba aynu ogaano aan isu sheegno war dawlad xun dawlad la'aan dawlad xun baa dhaanta war wax walba ilaahay ina siiyo aan iimaansano war farq kaliya fool ma dhaqde qof kasta oo Soomaaliyeed oo ama madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo ama ra'iisul baarlamaan noqdo hadii aynu kombalan gareyno hada qofkii dismoral buu noqonayaa wixiina waaba xumaanayaan war haduu noo yimaado mid curyaano oo indhahala oo aan waxba aqoon uu hogaamiye noqdo aan isku dayna inaan hor istaagno war Soomaaliya hadda ugu rajo weyntahay qof walba aqalkiisa ayuu ka hadlay Soomaaliya hadda ayay ugu rajo weyntahay hadda ayay ugu rajo fiican tahay Soomaali wali madaxdeedii inta isu timid ay heshiiyeen ay israaceen ama khalad isku raacaan ama sax isku raacaan oo ay gacmaha wada qabsadeen oo caalamkii ku taageeray hadda ka horna ma soo marinin waanu taageersanahay wax wanaagsan bay sameeyeen wax wanaagsan ayay qabteen ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa dad la mid ah ama kasii fiican sida Cabdimaalig oo kaleeto ilaahay inuu inoogu bedelo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Doctores Lul Xasan Laari way mahadsan tahay waqtiga hana loo ilaaliyo gabagaba ayaanu maraynaa waxaan jeclahay safar dheer shakhsi u soo galay socdaal fiican u soo galay inaan halkan ku soo dhaweeyo waa Somali Community of St Cloud City chairmankeeda waana shakhsi runtii hiil iyo hooba la garab taagan ummadda Soomaaliyeed degan magaalada St Cloud gaar ahaan qaxootiga hadda yimid waa kan Maxamuud Ismaaciil Maxamed Faysal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحنقوم مهدنقية أنقو عافمات قبنا maanta in aanu halkan isugu nimi in aanu taageerno shakhsi walaalkeena oo ku hamiyey in uu dalkeena hoggaanka u qabto waa mas'uuliyad aad u weyn xag ifka iyo xag aakhiraba iyo wadani ahaan qof aanan geesi ahaynna ma hunguriyeysan karo maanta dalka sidaa u burburay in uu hoggaanka u qabto waa xil aad u weyn oo aanu garan karno haddaanu caqli leenahay in uu aad u culus yahay oo u dhib badan yahay horta Cabdimaalig Askar waxaan ku oranayaa shakhsi geesiya tahay shakhsi Soomaaliyeed oo doonaya in uu xilkiisa gutaa tahay waan ku aqaanaa shakhsiyadaada dahabka waan ku aqaanaa dadaalkaaga faraha badan iyo taariikhdaada waan aqaanaa taariikhdaada aqooneed waana wada shaqaynay hawlo adagna waanu wada qabanay waqti adagna waanu wada maray maanta aad baan ugu faraxsanahay in aan kugu guubaabiyo because waxaad u sii socotaa dalkeennii oo u baahan hoggaan daacad ah dalkeennu wuxuu u baahan yahay cadaalad wuxuu u baahan yahay in dib loo dhiso dadka niyadooda in ay dib u midoobaan waxaanu u baahannahay in aanu abuurno midnimo Soomaaliyeed oo aanu dib u abuurno arrintaas oo keentay in xoogag shisheeye iyo dawladaheena ka yaryar ay dalkeena wax allaale iyo waxay doonaan iyagoo sharci walba ku tumanaya ay waxay doonaan ay ka sameeyaan Cabdo waxaan rajaynaya in aad u diyaar garowdid xitaa in aad cagacadaan dalkaaga dib u dhisidiisa
iyo habeyntiisa iyo isu keenidda dadkaaga aad u dulqaadatid xanuun walbana aad u martid annaguna waa kugu garab taagannahay ilaahayna waxaanu ka baryeennaa in aad ku guulaysatid arrintaa aad u socotid oo aad hoggaanka noo qabatid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha Somali community waa uu mahadsan yahay mudane Faisal Maxamuud Ismaaciil Maxamed markan waxaan jeclahay inaan u yeero suxufi qaali ah oo inoo soo koobi doona nololeedkii taariikhdiisii waxbarasho madaxweynaha mustaqbalka 2012 الزعيم بروفيسور عبدي مالك أسكر وكان علي عبدي حراري أو صحفي قالية هورينا وصو شقية إذا عدها BBC ده إيه Voice of America. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إن بدن بان إذا عدك صو شقية لكن وحنا كوفي على الميكروفون كي وسي كذي دتك اسمنا أركتشرين تي في جو كده وين هذا dadkii waad soo taagantihiin waqti waa ciriiri tigidhna waa lagu siinayaa haddaad hadalka badisid sida ii muuqata markaa sida ugu kooban ee ugu dhaqsaa badan leh ayaan in yar dul mari doonaa cabdimaalig askar iyo taariikhdiisa waxaynu ka hadlaynaa waa siyaasad nin reer miyiga baa lagu yidhi talow siyaasad waa maxay markaasuu yidhi waa iyadoo geed la isugu yimaado oo konton nin intay isu yimaadaan markuu shirku dhamaado aad aragtid kabahaagii oo la xaday dabeetana aad isku mashquulisid taloo kontonkii nin kabahaagii kuma qaatay kabaha la qaatay cabdimaalig baan maranayaa inuu la maqan yahay isagaa madaxweyne isu sharaxay ka qayb geli doona hawl aad u ballaaran dad baarlamaan iyo wasiirnimo ay kaga dhigtay dabeetana taa iyo koodhan intay qaataan dadkoodii oo baktiyaya marba Istanbul ka degaya mar Nairobi ka degaya dadka loo tegayo ee Soomaaliya imika wax laga weydiiyo waxa weeye dadka haddii hal example aan la siiyo waxaan soo qaadan karaa nin laga sheegay waxa la yidhi waxaad qaadataa wasiirka ganacsiga meeshan waxa ka socda gorgortan markaasuu dib u xisaabtamo wuxuu yidhi wasiirka ganacsiga garan maayo laakiin bakaaraha ma xukumaya talow marka hankiisu halkaas u gaarsiisnaa ninka dadka aynu dadka lala tartamayo ama Soomaaliya mas'uuliyaddeeda muujinaya ee matalaya waa dadka inta badan aan caadi ahayn in la yiraahdo wuxuu haystaa shahaado PhD iyo master iyo wax noocaas ah dhammaantood waxay moodaan inay hal iskuul ka soo baxeen oo ay haystaan hal shahaado oo aad loo buunbuuniyo shahaadadaas oo ah sida qiyaasi anigu mid munaafaqada xilligan waa xilligii aan loo baahnayn shahaadadaasi munaafaqadiina sii shaqayso waa xilligii loo baahnaa dad indheergarada oo aqoon-yahana ah inay dalkooda u kacaan nin kasta intiina imika hor fadhida iyo inta kale maqanba waxaynu nahay dhammaanteenba muwaadiniin nin waliba xaq buu leeyahay inuu markaas waddankiisa u kaco oo u dhiidhiyo oo uu yidhaahdo waxbaan u qabanaya taas waa taa example-ka 20 sano u dambeysay tusaale xun baynu noqonnaa adduunyada inteena xun baa la sheegaa sometimes waxaad ka khajiraysaa in qof ajnabi aad u sheegatid inaad Soomaali tahay marka tiraahdo Soomaali baan ahay waxa ku xigta bamkan iyo qaraxan baad ka diisaa meesha su'aashaasna jawaabteeda ma haysid sumcad xumada waxayna gaarsiiyay dad mas'uuliyad matalayay oo iyagu jeebka wax ku shumanayay dadkooduna ay markaasi gaajo u dhimanayaan ariga marka la leexinayo ama la didinayo waxa la isticmaalaa daasad yar oo dhagaxaan lagu guro oo qulux tiraahdo sanqadha daasadaasi ariga marka lagu tuuro wuu didaa islaan reer Burca ayaa waxay tiri arigii daasadii u joojin waa lagu tuurayaa waa halkiisii dhaqaaq maayo dabeetana waxa maxaa loo isticmaalaa iminka waxay tiri daasadii waxa lafteedu waan ka ilbaxnayo siyaasadii waan bedelay arigu markuu sidaa isu qabsaday doonaysid inaad leexisid waxaad odhanaysaa un al-shabaab waaye timeka ayaa ordaya waxaa laga yaabaa laba luqadood baynu ku kala hadlaynaa geestiinan iyo dhinacan kale oo dhallinyarada af Soomaaliga ugu fudud baan isticmaali doonaa
عبد المالك دتك قاعد مركل ويديو وحليهن تاريخ ديس أنت سان كي قينا مدة دير بان صحيح عين لكن دتك قاعد باله فيسبوك أيام نسكب برني سنة كهر وأنا نو لكسن واحد عرض التكنولوجيا أي مرسو وحكل شيء مقدشو نبى نقول يمسح الراد له وحد سدح ويليو مد حمر كل شيء نينكا حمر كل شيء ما يبينو هانين وتماميو إنه هانين ونكسن ما يبينو ها إنه تماميو نين مركز الله يقول لغة الصومالية سكلا أما ومركز سكع عبني عبد الملك ضبطهم بقى مسنا كل شيء ملاهم بالكله لكن مقدشو أيو كل شيء إسرائيل هذا أيو كسو برباري قحي مركز لقاها اللي وحي يمد سيدي دتك الصومالية أو بدناين ودك كينيا مقالة نيروبي وحي يمد دتك مريكنكا كاليفورنيا أيو كبر على أورسكا مينيسوتا أيو كدم بي لين على تعليمته إن بدن بهالكن لقى شيء إنه كل شغل لها وحول سي سكول شارترة وحول سي جامعة دي نقال يونيفرسيتي يدنا أو غيب كقاطي وحوجي معلمين شيشية أو مريكنا وحول سي إذا عدا أما بالتي في كسيد الصومالي ميديا أوكله وغيب كلها إما كنا حلقا لوجيرو وحويا معمولة سكول قولوا أيان إذا كسر دوين دونا isaga ayaa inta kale waxay Soomaalidu tira nin durbaan qaatay ee dalbay isaga ayaa ka hadli doona waxa xamar geeyay ee xilligan ku dhaliyay in uu madaxweyne doonto soo dhawow aan raad galbeed markay ku celiyo waqtigu waa gabagabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صحفي قالقة علي عبدي حرارة ومهتسين هاي مركن قبدي أيان سوقارني وحن ويري حمزة محمد أو دلي عبدي مالك محمد عسكر كدمنا السجا يا أبيه كسر دوين دونا and ميكروفونك حمزة welcome. Hello, my name is Hamza Mohammed, and I would like to start this talk with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are here to discuss my father's running for the Somali president. We all know that Somalia has had a lot of problems throughout the years and that he can fix all those problems with the help of the Somali community. There's research that I did that there has been 350,000 to 1 million Somali people that died due to tribal warfare. There has also been 750,000 Somali people that died due to the famine in Somalia the past few months. My father is well suited for the job. He's for democracy, hearing the people, and learning by example. He believes that he can change Somalia for the better with the help of us here and the help of us in Somalia. We all know that this well-known statement that is said, Somalia hanolato, Somalia hanolato, Somalia hanolato. And I'm here to tell my father that he's coming up next. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadcelinayaa dadkii dhammaan halkan ka wada hadlay dadkii maanta chance u helay fursad qaaliya inay iga daawadaan telefishinka Somali Media iyagoo degan gobolka Minnesota dadkii iyago chance u helay inay iga daawadaan Facebook ama YouTube ka iyagoo degan qaaradaha kala dhaadheer sidoo kale waxaa jira dadkii iga daawaday barnaamijyada ku baxa ama Royal TV ama Universal TV ama dadka daawan doona runtii barnaamijkan qaaliga ah ee maanta halkan aad marqaati ka wadateen waxaan kaloo mahadcelinayaa dadkii halkan sida qaaliga uga hadlay taariikhdeeda sheegay waxyaalihii aan soo qabtay iyo runtii intii aan deganaa gobolka Minnesota oo ugu dambeeyay hadeer sida marqaati oo ahaydeen wiilkayga Hamza Mohammed aad baad mahadsantiin runtii taariikhda Soomaaliyeed uguma horeeyo qof Soomaaliya oo is sharaxay waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan malaa markii qurbaha la soo galay ayaa dadku waxay barteen inay markaasi doorasho u istaagaan maaha Soomaaliya 1960 ilaa 1900 kacanka uusan qaadan waxa jiray dad dhowr ah oo musharaxiin ahaa oo wali markaasi tuulooyinka Soomaaliyeed ay taga campaign ka sameeyay jiray minagana maanta waxaan u helnay chance inaan microphone iyo camera iyo lights kan arkaysaan iyo gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan aanu haysano taas waxa ka dambeeyay dawladda kacanka ee Siyaad Barre oo runtii oo loola badan qaaday dad badan wax soo bartay anigu aan ku jiro iskuuladii Soomaaliya oo wax ku soo bartay qalin iyo buuga ka bacdina aan uga soo gudubnay qurbaha saad ogtiin dawladda Siyaad Barre Allah u naxariistay waxa ka dambeeyay burbur badan oo Soomaali ku wada dhacay
burburkaasi waxay noqotay dadkii inay dad badan ay ku naf waayeen dad badan ay maalkooda ay ku seegeen dad badan markaas ama gabdho badan oo dumar ah in markaas lagu kufsaday qaar badan hantidoodii runtii lagu dhacay burburkaasi waxa uu keenay dadkii dariska wada ahaa ee magaalooyinka wada degaan inay kala fogaadaan inay u kala qaxaan meelo runtii aad u kala dhaadheer qaxidaas ay u kala qaxeen waxa ku jiray markaasi inaan u qaxnay qaarba wadanka dibadiisa ay u baxaan kuwa wadanka dibadiisa u baxay waxay la kulmeen runtii dhibaato aad iyo aad u culus haday noqon lahayd inay qaxoontinimo noqdaan haday noqon lahayd inay xabsiyada ay galaan ama haday noqon lahayd luqada aysan guuligooda arag in lagu qasbo oo markaas ay bartaan taa markaa waxay keentay burburkii qaar wadanka gudihiisa ku burburay iyo qaar markaas dibadda runtii dhibaatooyin badan ay ku soo food saartay haddii aan uga baxo burburkii dhibaatooyinka ahaa ee hadda aan usoo guda galo waxaa dhalatay dowladdii federaalka ee Soomaaliya 2004 dadkaas oo dad badan ay ka shaqeeyeen runtii isu keeneen maskaxdooda xataa ay keeneen in markaas Soomaaliya lagu soo xulo baarlamaanka maanta jira 4.5 taasoo markaas uusan hayn xal ee markaas dan loo arkay waxa kale oo markaas jirta dowladda federaalka ee isu keentay hal ku dhigeeda wuxuu ahaa dib u heshiisiin ayuu ahaa inay dadka Soomaaliyeed ee markaas burburka ku dhacay ee dagaalada sokeeye ku dhaceen hantidooda ay ku dhumeen in markaas isu keenay ay heshiisiyaan taa waxay sameysay dowladda federaalka inay sameyso wax la yiraahdo dowladnimo ee ku soo celiso maanta Muqdisho in aan dowlad hanan karnaa u istaagno dowladda federaalka waxay abuurtay baarlamaankaas oo runtii badeeni badbaadiyay iyadoo la damcay in la iibsado wadamo kale ay qaataan inay u istaageen oo ay joojiyaan aad bay ugu mahadsan baarlamaanka Soomaaliya waxa kale oo jira in dowladda federaalka ay sameeyeen roadmap wax la yiraahdo roadmapkaas oo loogu talagalay sidii dadka Soomaaliyeed loogu jeexilaa wadadaas lagu soo dabaalo nabad iyo horumar waxa kale oo jiray shirki London in isugu yimid oo runtii madax badan ay ka soo qayb galeen ilaa 50 dowladood loogu yaboohayo dhaqaalo looguna yaboohayo sidii Soomaaliya dib mar kale loo gurman lahaa shirka London ee quruxda badnaa waxa ka soo baxay in markaasi dowladda federaalka waqtigeeda uu ku eegyahay sanadkan 2012 August taasoo oo keentay maanta in aan u taaganahay in aan markaasi doorashada soo socota aan ka qayb galno haddaba waxaa jira maadaama dowladda federaalku hal ku dhigeedu uu ahaa dib u heshiisiin maxaa anaga hal ku dhigno sida aad ku arkaysaan asaamaha ama dad badan ay gashiinayaan sunaanada waxa ka muuqatay inuu ahaa dib u dhis maadaama wadanka Soomaaliya uu soo maray burbur 20 sano oo burbursana waxa marka hadda aan u istaagnay idinkana marqaati ka wadatiin dadka channels ku helayna daawanaya TV-ga ama dadka maanta halkan fadhiyaba in aan sanadkan 2012 aan u bixinay sanadkii dib u dhiska maxaan u bixinay dib u dhiska waxaan u bixinay sanadkii dib u dhiska ayaan u bixinay haddaba waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan dib u dhis baa la yiri maxaan dhisaynaa waxaan dhisaynaa daarihii burburay waxaan dhisaynaa dadkii kala tagay hadda qodobadan soo socda aan ka hadlo marka ugu horeysa waxaan dhisaynaa dib u dhis aan u istaagnay astaanteena ay tahay inaan dhisno ciidamada inaan wadanka Soomaaliya ciidamadooda in badan ayaan u safray waxaad ku arkaysaan askari gashan tuute laakiin hoosta macawis ka gashan taas waxa ay ku tusaysaa in askartu markaas ay yihiin in ay jilicsan yihiin haddii Allah wada loo ogolaado waxaan u fureynaa askarta Soomaaliyeed tababar waxaan u kala soocinaa askari walbaaba dharka gooni uu gashan lahaa haday noqon lahayd booliis haday noqon lahayd gulwade haday noqon lahayd askarta militariga ee wadanka Soomaaliya kaliya ma hayna ciidamada aan ku ekaanayno waxaan u gudbaynaa waxbarashada waa mid labaad ee lafdhabar waa wadanka Soomaaliya haddaysan dadka Soomaaliyeed wax baran ma ka saari karaan gaajada iyo jahliga maanta nagu jira waxbarashada Soomaaliyeed in badan oo aan u safray waxaad ku arkaysaa laba iskuul oo darisa oo labada iskuulba ay kala haystaan manhaj kala duwan manhajkaas oo laga soo ururiyay qurbaha ama laga keenay wadamo kala duwan taas waxay keentay ciyaalkii isku guri ahaa oo laba iskuul kala aadayay inay markaasi ku dhalato in aysan fahmaynin oo ay iscaawin kareen iyaga laftigooda waxaan abuureynaa dib u aan u dhisaynaa haddii Allah wada loo ogolaado hal manhaj oo Soomaaliya oo dhan ka wada dhaxeeya anagoo waliba siinayna option ah 7 manhaj inay kala dooran karaan oo standard ah taa waxa ku dheer Soomaaliya maanta tacliinteeda in loo kala qaybiyo laba qaybood dad awooda tacliinta oo dhigan kara iyo dad aan dhigan karin waxaan soo celinaynaa haddii Allah wada loo ogolaado dawladdiisa barre ee horetii ay ku guulaysato waa dadku inay helaan tacliin bilaash ah waxaan soo celinaynaa dadka Soomaaliyeed in ay helaan tacliin bilaash ay ku dhiganayaan haddii Allah wada loo ogolaado sidoo kale waxaan ku xijinaynaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya saad ogtiin arrimaha dibadda aad ayaan uga burburanay wadanka Soomaaliyeed waxaan safray ilaa 9 safaaradood safaarad la system ah markaysa ama markaasi la mabda ah oo ay ku shaqeynayaan hal wax waxa laga yaabaa inaad weydiiso safiirka u fadhiya wadanka ama safiirka wadanka u fadhiya ma taqaan taa markaasi wuxuu keenay inay keentay insaf garanwaa oo midkan warqadda uu soo qoray ama baasaboorka uu bixiyay ka kale inuu diido haddii Allah wada loo ogolaado waxaan baranay waxa la yiraahdo in aan u sameeyno standard safaaradaha Soomaaliyeed 44 bay ahaan jireen in aan soo celino waliba ka badan oo 190 labada dawladood ay jira in aan safaarad wada geeyno haddii Allah wada loo ogolaado
dibudhiskaasi waxaa weliba oo sii dheer oo standardkan siinaynaa inaan u qabano sanad walbaaba conference safiirada oo dhan iskugu wada yimaadaan ay iswada bartaan iyaga halkaas isku wada dhaafsadaan waxaynu ka baranay qurbaha waxa loo yaqaana yellow page in la sameeyo safaarad kastaaba safiirka numberkiisa iyo emailkiisa iyo contact informationka oo safaarad walbaaba la yaqaano taa waxayna tusaysaa marka astaantii iyo horumarkii aynu dib isu celinay waddanka astaana noo ah dibudhiskan waxa kale oo jira ilaha dhaqaalaha Soomaaliya waxa burburay ilaahi dhaqaalaha ayaa burburay waxaad arkaysaa dawlad aan lacag la'aan waxaad arkaysaa dad badan oo markaasi dawladda kamid ah oo iyaga bangiyada aan lacagta dhiganaynin laakiinse markaasi xawaalada dhiganaya haddii Allah wada ogolaado waxaan dib u soo celinaynaa ilaahi dhaqaalaha ee Soomaaliya in markaasi canshuurta dadka laga qaadayna ay dadku ay leeyihiin waxa jira mararka qaar kood dadka canshuurta laga qaadanaysan dib u arag laakiin haddii Allah wada ogolaado canshuurtooda dadku dib ayay u arki doonaan intay dhigaan waxa jira oo dawladda haddii la hawdo logoladan bilaabi doona dib u dhisi doona xafiisyadii dawladda waxa jira in badan wasaaradaha Soomaaliyeed hadda inay ku shaqeeyaan hoteelada ay degayiin oo hoteelada ku shaqeeyaan waa inaan kala saarnaa residentiga iyo xafiisyada dawladda waa inaan u helnaa xafiisyada dawladda meel ay ku shaqeystaan oo shaqadooda markaasi ay u isticmaalaan taas oo markaas aan isku talagali doono inaan tababarno dadka social service afka qalaad wax lagu yiraahdo dadka soo dhaweynaya dadka service-ka u sameynaya in ma u shaqeynaya inay garanayaan macnaha shaqo wax la yiraahdo taas oo u baahan tahay training in la siiyo ay soo dhawaadaan haddii Allah wada ogolaado waxa kale oo jira sumcaddii Soomaaliya ee dibadda inay aad iyo aad ay u burburtay sumcaddii dibadda waxaad ku arkaysaa in loogu yeero marka qaarkood argagixis ayaatiin waxa laga yaabaa in loogu yeero marka hore dad gaajaysan ayaatiin ama dad qaxoonti ayaatiin haddaba Soomaali image haddii Allah wada ogolaado sidee baan u dhisi karnaa ayaa su'aasha isweydiinaysa in badan waxa ka soo shaqeynaya saxaafadda dad badan oo saxaafadana waxaan fursad u siinayaa in ay waddanka Soomaaliya ay dib ugu soo celiyaan image-koodii kaliya aanan lagu sameeynin report in qof dhintay ama qof markaasi ama baawar oo leeyahay kaliya aan la tusin caalamka laakiin la tuso arday wax baranaysa laakiin la tuso arday markaasi iyagu shiraya oo ka qayb qaadanaya horumarka in la tuso wadooyinka sida loo nadiifinayo waddanka Soomaaliyeed taas waxa uu keenaya caalamka inay ku soo dhiiradaan oo waddanka Soomaaliya yimaadaan laakiin haddaynu dhib miran aan ka hadalno waxay noqonaysaa runtii mid ku habsata waddanka Soomaaliyeed waxa kale oo jira suxufiyiinta Soomaaliyeed runtii anigoo aad iyo aad uga tacsiinayay weegan la soo dhaafay waxa la dilay suxufi Soomaaliyeed waxa loo dilay waxa weeye laba qodob ha sheegin haddii kale iska aamus waxaan u malaynayaa sanadkan 2012 ka dib dhiskan ku jirno wax walba oo dhaca waddanka wala sheegaya waxaan u furaynaa saxaafadda Soomaaliyeed inay xor tahay inay meel kasta iyo wasiir kasta iyo dawladda qof kasta oo ku jira waqtiga doona u tagi karaan waqtiga doona wax weydiin karaan in ay xor ku joogi karaan waddankooda markay doonaan wax qori karaan saxaafadda Soomaaliyeed waxaan u furi doonaa tababaro bilaash ah oo ay ka faa'iideystaan si ay u horumariyaan wararka ay markaasi tabinayaan haddaba caawa waxa laga yaabaa dadkii inay wada daawanaya ee runtii chance u soo helay qaarkeen baraf u soo maray ee halkan idinku yimid waxa runtii aan idinka codsanaya inaan dhammaanteen hal mar aan u istaagno oon hal mar aan u istaagno runtii dadkii Soomaaliyeed ee ku burburay waddanka Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed ee naftooda ku waayay dadkii Soomaaliyeed ee maalkooda ku waayay in dhammaanteen Ilaahay isku kaaya cafiyo ayaan jeclahay inaan 1 minute u istaagno aad iyo aad ayaan u maasanayaa waana mahadsantiin runtii waxaan filayaa dadka TV-ga naga daawanaya inay dhammaantoodna iscafiyeen gacmahana isqabsadeen ayna wada istaageen fadhiista please salaam waxaan u malaynayaa in la soo gaari doono waqtigii su'aalaha aan furi lahayn haddii Allah wada ogolaado anigoo chance siinaya dadka ka soo qayb galay in ay runtii su'aalaha halkan igu weydiistaan waqtiga uu yaryahay kaliya maaha khudbadda maanta halkan aan ka jeedinayo inay ku dhamaanayso haddii Allah wada ogolaado waddanka Soomaaliyeed uu weyn yahay gacmaha ayaan isqabsan doonaa slogan-keenana waxa weeye dib ayaan u dhisi doonaa waddanka Soomaaliya haddana waxaan u furayaa su'aalaha in halkaas haddii Allah wada ogolaado su'aalaha la igu weydiiyo السلام عليكم مشرح عبد المالك عسكر وعليكم السلام ورحمة الله دمان أودينسكا ومدى الصومالية تي في كنا قداونيسا عبد المالك وكو فرحسنا هورتينا ما انتو عارت مدحوين نمو يعني مدحوين إيو مدحوين يالنا ويسيك انتاير waxaa laga sharqamiyaa haweenka iyo caruurta inay minority yihiin dad iska dhibaataysan yihiin I don't think so no more inay sii socon doonto maxaa yeelay waxaa la imaaday waddan horumar balaankaagu muxuu ku yahay waqtiga oo gaaban aagiis yaa prime minister ku noqon karo first question supportiga ma helaysid ilaa prime minister uu noqdo qof haweena second thing waa ay casuuman tahay maxaa yeelay this place is a very small place
Somali community Minnesota ku nool waa large community waxa laga yaabaa in jaahilka imaada Soomaaliya convention-ka loo qabto ama nin qabiil matalaya ama qabiil but you deserve in adiga aan ku sharaxno oo meel weyn ku qabano oo adiga aan garba ku noqono waa adiga oo ah shaqti Soomaaliyeed aad iyo aad ayay maasantahay xafadaasna anaa ballan qaaday inaan qabanqaabiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo gabdhaha ku sin doono tan xigta waxaan azumi doonaa ama arabnaa in Prime Ministerka I think this is a Universal TV or local TV caalamka oo dhan baa daawanaya okay madaxdii Soomaaliyeed ee London isugu timid waxay la shireen jaaliyadda London more question need answer waxaan ka codsanaynaa Minnesota inay imaadaan taageero ma siinayno ilaa ay noo soo gudbiyaan really agenda wassalaamu calaykum aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runtii sidaad ogtahay gobolka Minnesota dhinaca tacliinta superintendent-siga marka la magacaabayo waxaa loo sameeyaa guddigaas waxa ay sameeyaan website waxa ay sameeyaan contact information kabacdina waxa loo soo gudbiyaa resume-ga ama waxa loo soo gudbiyaa CV-ga wax loo yaqaan haddii Allah uu ogolaado aan ku guuleysto madaxweynaha waddanka Soomaaliya waxaan sameyn doonaa guddigaas ay ku jiraan haween odayaal aqoon-yahano dhalinyaro dhammaantood guddidaas oo markaasi iyaga haddii Allah uu ogolaado website-kooda lagu soo gudbin doono shuruudaha qofka doonaya Prime Minister ee waddanka Soomaaliya u istaagay ee doonaya inuu wasiir la shaqeeyo u soo magacaabo haddii Allah uu ogolaado tan kale waxaan leeyahay haddii Allah uu ogolaado in agendahayna kale waa clear way aad ay u mahadsan yahay waana ku mahadinayaa runtii meeshan meel ka weyn runtii inaan qabano waana barnaamijyada dambe ee soo socda haddii la yiraahdo aad baa mahadsantahay kaameramanada MTN-ka ayaa waxay codsadeen in qofkii su'aal madaxweynaha musharaxa u qabo inuu halkan soo istaago si waa loo diyaariyey kaamerada lama ogola in mikrofoonka la qaado waa mahadsantiin Luul Xasan Laari welcome kusoo بسم الله الرحمن الرحيم runtii aad baan u faraxsanahay caawa Cabdimaalig anoo hortiisa taagan oo waliba su'aalo weydiinay su'aashaydu waxay tahay Cabdimaalig maadaama aad tahay nin sumcad weyn iyo taageero weyn maaragtay ay u hayaan haweenka Soomaaliyeed waliba gaar ahaan kuwa ku nool North America waliba gaar ahaaneed reer Minneapolis waxaa jirta dawlad kasta oo dhalatay haweenka oo ah maaragtay xubin aad u firfircoon xubin aad u tiro badan xubin aad iyo aad u qiimo badan waxayna la barteen hal jago oo ah wasiirka maaragtay wasaaradda maaragtay haweenka oo iska fake ah marka Cabdimaalig ma u malaynaysaa haweenka inaad siin doontid wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirka maaliyadda ama arrimaha gudaha aad iyo aad ayay runtii u mahadsantahay Luul Xasan Laari talada fiican ay dhiibtay runtii Prime Ministerka soo socda anigoo xilkiisa runtii aanan faraha gelinaynin laakiin se siinaya talooyin siinaya waxaan kula talin lahaa maadaama haweenka qurbaha ay aad iyo aad u shaqeeyaan inuu wasiirka maaliyadda u dhiibo waa kan Cabdiqaadir oo madaxweynaha musharaxa su'aal u qaba Cabdiqaadir soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aad u mahadsantahay Cabdimaalig waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa waqti munaasib ah oo loo baahan yahay iyo waxaad ku soo beegtay dib-u-dhiska Soomaaliya arrinkana waa arrin maaragtay muhiim ah ummadda Soomaaliyeedna anigoo magaceeda ku hadlay gaar ahaan aqoon-yahanada ku nool magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waa kaaga mahad celinayaa maaragtay qodobka aad maaragtay u soo bandhigtay su'aasheedu waxa weeyaan amniga Soomaaliya waa arrinka kaliya oo ugu muhiimsan oo aan haba yaraatee aan islaax laga gaarin haddii aysan amni aysan lahayn Soomaaliya marka habkee aad doonaysaa ajandaha maaragtay aad soo diyaarisay iyo qaabkee aad doonaysaa inaad ku xaliso maadaama hadda Soomaaliya ay ku jiraan ugu yaraan ilaa iyo 14,000 oo ciidamo shisheeye ah ciidamadii Soomaaliyana ay weli meesha ku sugan yihiin oo waddanka joogaan aysan waxba ka qaban laayihiin dhibaatadii ay maaragtay maalinta ka sii dambaysa ay sii kordhiso marka xaggee iyo sidee iyo balaankee ku degsan oo aad ku sugi kartaa nabadgelyada iyo dalka Soomaaliya aad iyo aad ayaad mahadsantahay runtii waa su'aal runtii aad iyo aad u fiican sidaad ogtahay amniga ama dadka la doonaya dadkeena in laga celiyo waa dadka anagu aan dhalnay waa adeeradeen dadka iyagu qoriga qaadaya ee markaas ku soo riday qof Soomaaliyeed number 1 waxaan iska bilaabaynaa family ahaan inaan dadka Soomaaliyeed tusno nabadda waxa ay tahay 20 sano ayaa waddanka Soomaaliya burbur ku soo jiray
oo dad badan ay ku barakaceen dad badan walaaladood markaas iyagoo arkaya qaarkood la kufsaday taas waxaan doonaynaa in dadka Soomaaliyeed gacmaha is qabsadaan oo markaa joogaan hadda waxaad arkaysaa al-shabaabka in laga guuleysanayo aan ku soo xataa doonto dadkan hadda waxa laga qabsaday balcad oo ugu dambeysay hadeer baydhaba ayaa laga qabsaday taas waxay keentay ma ahayn inay ku timid kaara iyo beebe in loola tagay waxay ku timid dadka Soomaaliyeed oo la fahansiiyay nabaddu waxa ay tahay dadka Soomaaliyeed oo la fahansiiyay dadka danta u wada waa dadkee weey hadduu wiilkaaga intuu ka tago guriga uu ku soo noqon karayo waxaan jeclahay laba qodob mid waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo loo sheegay nabadda waxay tahay qodobka kale waxa weeye haddii aan amni la dhisin ama sharci la dhisin policy askariga waa in loo sheega xuquuqdiisa waxa ay tahay iyo anaga waxay xuquuqda tahay dadka shacabka taas waxaan u maleynayaa in waddanka dib u dhisi karno waa mahadsan tahay musharax cabdimaalig askar falis xade waxa ay ku weydiinaysaa waxbarasho free ah ayaa ummadda Soomaaliyeed inteedii badnayd iyo dadkii aad adiga ku jirtayba ay soo mareen marka qodobka waxbarashada haddii aad ku guuleysatid madaxweynenimada inaad noo sharaxdid waa su'aal ay ku soo weydiisay daawadayaasha goobta fadhiya waagaag iyadoo dad badan ay sugayaan runtii qodobka waxbarashada anigoo si fudud ku soo koobaya number 1 waa in la helaa manhaj dadka standard ah standard means waxa weeye manhaj dadka midaynaya talabaad ee kale waxa weeye ardayga Soomaaliyeed arday walba marka uu helo free waayigii hore waxa jiri jireen dharka ay soo iibsan jireen dhar isku mid ah lagu wada aadi jiray iskuulada taas waxa ay simeysay dadka taajiriinta iyo dadka faqiirka in hal uniform ay soo wada gashtaan taas anagoona xorriyadaasi ka qaadeen dadka oo u ogol dadka ninka lacag haysta ama ninka dad haysta dharkiisa soo gashan karayo laakiin si aan xor uga dhigno hal manhaj in dadka wada helaan iyo waxbarasho free ah inay helaan Soomaaliya geeska gees hadii Allah wada loo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد المالك آدي أيان كوجهم بلينيا وحنا كور جيني يقول إن كجارتيد هذا إنه رين من الصورة سمعت أي نوت هاي نندل يرى أو سوماليا أو من الصورة وحكبرتي إلى PhD نكقاتي إن دل كان مريكن كا إنه تجو ولي بنيكي يقول ريو دل يرى أو مدحوينه ورد عن نقطة دونتي ريكورد كاتنا سمين دونتي سؤال شكلي كوين دين دونا واحد هاي Soomaaliya madaxdeeda ama dadka wax ka raba hal su'aal baa la isweydiiyaa warniyo ninka ayaa wata wadankee wata marka adigu maadaama aad meeshii u socotid Soomaaliya ahayd yaa wadankee ku wata yaa ka dambeeyay hambalyo cabdimaalig askar su'aasheedu waxay tahay waxa ugu badan dhalinyarta Soomaaliyeed dadka dhimanaya Soomaaliya ku dhimanaya sidee baad prevention ugu sameynaysaa ama uga hortagaysaa caawin doonta dhalinyarta Soomaaliyeed السلام عليكم وبركاته عبد الملك آد بان كوجو همبلينا يا جالسين ما أنت آد موجسي معايا ماشي أسعد أنا وحالد ده مركز سؤال كوي دينا وحوي هذا ولي هذا قضبة كصدر سن Soomaaliya waxa ka xun shabaabka jira iyo dhibaatada jira waxa ka xun corruption ka hareerayay hay'adaha dawladda marka maxaad ka qabanaysaa maxaa tilawada ka qaadaysaa corruption kaas hareerayay oo nin walba meeshii loo dhibaaso dhaqaalihiisa soo doona ugu maxaynayo oo ilaa hadda aan la arag hay'ad ka hadashay ama madaxweyne ka hadlay ama ra'iisul wasaare ka hadlay oo malaayiin dollar soo gasho oo tan lagu eedeyn ugu daran tahay kana xun dhibka ugu weyn dagaalka taasa ka xun maxaa ka qaban doontaa taas waagaag aad baad maasantihiin idinkoo su'aalihiina aan ka bilaabay qofka ugu horeeya oo runtii yiri yaa ku wata waa laga yaabaa dad badan is weydiiyaan askar yaa wata runtii askar waa muwaadin Soomaaliyeed cid wataana ma jiro askar waxa weeyaan oo uu doonaya sidii Soomaaliya uu dib u dhisi lahaa dib u dhiskaas ayaa wata aniga cid kale oo wata ta kale haddii aan ka jawaabo dhalinta Soomaaliyeed waxay laayihiin role model waxaan jeclahay runtii wiil Soomaaliyeed oo qaxoonti ku yimid Mareykanka PhD ka qaadanaya iskuulo u dhisay caruurta hadda ay noo dhigtaan jaamacada ka dhisay wadanka Soomaaliya sports geeyay oo koobkooda halkan inta ka qaaday halka geeyay waxaan filayaa runtii TV u furay waxaan filayaa inaan role model u noqon doono dhalinta Soomaaliyeed oo runtii wadada ay soo raacday tan kale ee corruption ka abdi aad iyo aad ayuu maasan yahay erga corruption ka means waxa weeye wixii la qariyo dadku ma oga ilaa ay hadda state-ka soo joogna Minnesota qof walba mushaharka uu qaato dawladda u shaqeeyo waan ognahay website-ka ayaad gelaysaa intuu qaato ayaad arkaysaa laakiin Soomaaliya xataa ma naqaan mushaharka ay qaataan madaxda Soomaaliya taa waxa keentay qariska ayaa keenay haddii Allah u doorgolaado public ayaan ka dhigana wax walba oo dadka dawladda u shaqeeya taas ayaa yareyn doonta assalaamu calaykum markuu hore saambalyo waxa ku weydiin lahaa waxyaalihii laga hadlay adiga dhan waxa u egtahay nin u qalmeyno madaxweyne Soomaaliya ka noqdo oo wadankii uu ku baahan yahay wixii laga sheego dhan
laakiin adiga cabdimaalik ahaan maxaa ku koosgarayna waddanka oo aad meeshana joogi kartaa lacagtaas ka qaadan kartaa ilmahaaga ag fadhigi kartaa sababta u aad xagga bal naga dhaadhacsi waa gartay aad iyo aad ayay u maasan tahay waa runtii su'aal aad iyo aad u fiican wey saad og tahayba waddanka Soomaaliya Minnesota markii aan soo galay kaliya iskama aan shaqaysan oo shaqadeeda ma aadin waxaan u istaagay ummadda Soomaaliyeed inay helaan TV afkooda ay ku daawadaan waxaan ka soo shaqaynay ilaa muddo 14 sanadood qofna lacag iguma siinaynin saacadihii carruurteeda ayaan ka jaray si aan ummadda Soomaaliyeed ay u helaan iyagoo guriga jooga hooyo iyo aabe ay u daawadaan luqadoodii TV ay u daawadaan waxa kale aan Soomaaliya dib ugu noqday inaan ka aasaasay jaamacadda Nugaali University aniga oo maraya airportka Cumaan ayaa wiil ka shaqeeya oo uniform ku labisan waxa uu yiri askar Cabdimaalik askar miyaa la yiraahdaa waxaan ku yiraahdaa isagoo hubsanaya ayuu wuxuu yiri ma halkan aad degan tahay maya waxaan ku yiri waxaan deganahay Minnesota wuxuu yiri jaamacadda Nugaali University tacliintii aan ka bartay ayaan shaqadan ku helay waa Cumaan wadanka taas markii aan sameynayay waxaan ugu talagalay in dadku ay ka faa'iideystaan miraheedina waa ay aragteen marka waxay ku kalifay waxa weeyaan inuu istaago ummadda Soomaaliyeed waana waqtigii sanadkan aan u bixinay in dib loo dhiso wadanka Soomaaliya dib u dhiska ayaan maanta marqaati ka wadanahay kaas ayaan u taaganahay aad baan u mahadsantahay barnaamijkii live-ka ayaa intaas ku eg madaxweyne Cabdimaalik guul baan ku rajaynaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Yeah, picture a deal. Oh yeah, microphone kala xira. Anankai so diray tabubu iso faray